haddaba sugaa dhacday kolley waxaan malaynayaa akhyaarta sharafta badan ee meesha noo fadhida maygan waa mayga iska xalaala kolley magaranaysa mar haddii lasku taarikh sheeganayo marka ciyaarta tarabuunka labada dhinacba aad baan idin salaamaynaa waayahay waa mayga ugu kululaaye waxa weeyaan meesha dhex maraya marka aad iyo aad haddaba waa konton bay gaadhay waxaad ka xambaaranaysaa 51 sida khadkaa ka yar sida iga leexo horta ilmaad erayaalow waxaan rabaa dooda horta inaad duubtaan aniga oo sawjadeydii hortiina ku mehersanaya caawo dhan way iga cararaysa laakiin anigu gabay baan ku caddaynayaa sawja faadumo ayaanu la baxay sawjadayda weliba gabay baan idinku sheegayaa aan iyada ugu talagalay sawjadayda caawoo dhan way iga cararaysa subxaan allah waanad arkayseen waanan baafinayey wax kale maaha jilbahaysaa iskula dhacaysaa haddaba waan u soo aaraaranayaa doodaydana waan u qodobaynayaa weliba gabay aan xaaskayga ugu talagalay oo aan caawa hortiina ku mehersanayo ayaan halkaa ka sii daynayaa jawaabteediina waan uga fadhiyaa mayga ku xiga haddaba waan araaranaya waad garanaysaan oo qoodhahaygu wuu saliidaysan yahay sawjadaydana sawja faadumo dabada subag baa saacaddaa haddadaa aan gelayo aan u sii mariyey caawa gar adag hadday ka dhici weydo qolkaa waxaan idiin sheegayba waa been laakiin waxaan rabaa inaad hambalyada ii soo dirtaan waaya haddaba aan soo araarto ilaa waa taqaanaa landheere dhalay boqorka club house markaan anigu soo gelaya mayga waan kululeeyaa oo waan shidaa oo waxa weeye dabbaa ka baxa nacala talaatig landheere dhalay waa yahay sida horarka buuraha gala ee wax isku haabeeya ama halaqa duuduuban een hayda lala gaadhin war haabhaabad baanahaye sawjadayday sawja faadumoy hay hor yaacan wuu saliidaysan yahay iga walla iyo diinta waaya waa gabay anigu aan isku sifaynayo maadaamaan ahay boqorka club house maadaamaan ahay ninka sidaa looga cararayo maadaamaan ahay ninka sidaa looga baqayo maadaamaan ahay ninka jilbaha saa layskula marka la arko haddaba waan isyara sifaynayaa kaftanka iyo doodaha kilkilowga fiidkii ama maygagaa kulul inta aan ka maqanahay sidii koron 9 jira kurtimadu ha doobiyeen kun cil ha isku sheegeen kol haddaanse soo galo xarunta club house inay kabaha tuuraan imise la raadinayay wallaahi 8 qol baa la soo furay oo lagu baafinayo sawja faaduma bil bay iga maqneen weliba gabay baan ku sheegayaa caawo waaya sidii koron 9 jira kurtimadu ha doobiyeen kun cil ha isku sheegeen kol haddaanse soo galo waa boqor xirsi ammaan waa boqorkii dubka weynaa kol haddaanse soo galo xarunta club house inay kabaha tuuraan oo kaymaha u yaacaan oo luqyada ku daalaan horay kaafka ugu tiil caawo dhan meeday baan qaadayay sawjadaydi meeday kabihii bay tuurtay kaymahay u yaacday laa xawlillaah waay weli anigii baa iska hadlaya waa boqorkii club house waa the king of club house nin hadduu run sheegayo oo beenta laga reebay waxaan barayaa marka aad mayga furayso ama aad dooda gelayso sida loo soo galaniyo igu dambaysii anigu ma qaadanayo waxa maaqaan naagyow naagu dhalay fulay dhalay waxaaniyo ma sidaasaad club house ku joogaysaa sawjadayday ballan waxaan ku qaaday inaan club house kaa saaro waanan kaa saarayaa sidana kuma joogaysid haye waaya
nin hadduu run sheegayo oo beenta laga reebay ama uu raadadkii hoo hayo iyo rugaha taariikhda mar haddaan ruqaansado waad garanaysaan waa boqorkii mar haddaan ruqaansado ma jiro ruux ila xoogihiye beentay rigoodhada gasheen ma laha raandhiisa maxaa ka mid ah sawir bay ii soo saaranaysaa buur madow oo konton halaada si ay u tiraahdo sawjadu geel baan dhaqdaa naclaa aabbaha ku yaal war gaal iyo islaamba waa og yihiin inaad buur saarnaydeen oo aad riyo dhaqanayseen ma kalaab house ayaad isleedahay taariikh ku samayso ma sawir yar oo oday geel konton halaad ku naclaa aabbaha ku yaal beentay rigoodhada gasheen ma laha raandhiisa mar haddaan hulaabta iska rogo waa iska rogayaa go'i waa boqor xirsi ammaan mar haddaan hulaabta iska rogo mayga laga roorya waa idinkaa arkaya dee soo fadhiiso waa la laayi mar haddaan hulaabta iska rogo mayga laga roorya sidii aar intuu reer u dhacay raartii celin weyday wiilkaan habeenkaa rarto ruugagaa maqane waaja wiilkaan habeenkaa rarto ruugagaa maqane isagoo rabaayada ayaan raray ka yeelaaye waa tanoo midhan ragga qaar kalaab house ba nace wallaahi wuu nace kalaab house ragga qaar kalaab house ba nace goortaan raamsadee qaar kale rafaadkaan baday igu riyoodaane soo jafaanumo number one bay ku jirtaa dadka igu riyooda rimay naaxday iyo gololbaan raarta ka arkaaye haddaan layga ridin hee waa kolkaan roorsan jiray qaare raxraxlaynta waad naga yarayn sow jafaadumay raacan dabadiye waaja haddaba sidii caadada ii ahayd waxaan dee in yaroo aniga reerkayga ah iyo ragga aan ku abtirsado ayaan gabay ku soo gelayaa anigu yaan ahay waxaan ahay dirkii weerar cali baan ahay iyo salax lay diray sidii ina dube iyo yowle iyo danabadii guuray ismaaciil cigaal dooda iyo deeqda la imoodya yaa sidaa u soo geli kara niyow markaan anigu soo gelayo markuu boqorka kalaab house soo gelayo saasaan u soo abtirsadaa laangaab dhalay oo buur saarnaa oo riya dhaqanayay mayga saa uma soo galo we ismaaciil cigaal dooda iyo deeqda la imoodya dowlaadta inafiin ayaa loo dudayn jiraye digtii cige iyo feedhoole iyo diririgtii qaasin cabdilaahi muusihii danood duur xulmarinayey waa raggaygii ciddijiidka duq baa nooga tegey daa'imow abide waaja ciddijiidka duq baa nooga tegey daayinoo mahade kolkuu qowdhan doodeeda galo durugtay luuqdiye ina baanji tuudeel ku dhigay baan la dayn karin dayrwaa ma dhaafine bashiir baa duxdii helay nin dalaayad sheegtaanah iyo dab iyo liishaane digtoonaada waan soo wadaa tii aan door biday waan galay adeer waan galay waayahay caawa goobtaad arkaysaan sawjadayda sawja faadumo gabay iyada u khaasa ayaan u tirinayaa oo gala ka fuula hortiinna waanan ku mehersanayaa taytalkana waxaa loo beddelayaa waa gar adag tuu nacalaa aabbihin ku yaal bal dhegaysta ilmaadeerayaalow weliba ii duuba dee anugu mar horaan idiin sheegay markaan sawjadayda u galmoonayo qooraha subagu ii marsan yahay fadlan waa inaad duubtaan weliba gabayganaan u tirinayo waa inaad duubtaan en iyada ugu tala galay haddaba maxaan idhi waxaan idhi dadkoo seexday fiidkii saacadahan oo kale dadkoo seexday fiidkii waxaan subag u doontaaba laa ilaah waa subagaysan yihi sawja faadumoy
waana kugu jiraa ha isdhaqdhaqaajin dadkoo seexday fiidkii waxaan subag u doontaaba saqda dhexe waxaan mayracoon sabarhadeeyaaba suulashaad qabsanaysaa sacabadana waad dhiganaysaa sabradaydiina waan wataa way kaa yeedhaysaa waaya dadkuna waa markhaati sow jafaadumoy waaya haddaad ka jawaabi karto waan kaaga fadhiyaa laakiin dee waayahay saqda dhexe waxaan mayracoon sabarhadeeyaaba sacabada wuxuu ii dhigtoon haddada sacabada ayuu magaranaysaa suulashuu haystaa sacabada wuxuu ii dhigtoon soodhka geliyaaba sow jafaadumoy waa kugu jiraa nacallaa aabbaha ku yaal haddaan qolkaa gar'ada kaaga dhigi waayo oo aan ummadda soomaaliyeed hortooda kugu kufsan waayo waxaan kuu sheegaa waa been naagiyow naagu dhalay ama carar ama dhuumo ama noow ama iga anigu waan garanayaa waxaad u cararayso sacabada wuxuu ii dhigtoon soodhka geliyaaba waa ku jiraa soodhki 30 beri ayay iga maqnayd sow jafaadumo magacaaga ma ka haysaa halkaa sawjaday 30 beri way ii xisaabsantay inta maalmood aad iga maqnayd 30 beri ayay iga maqnayd sow jafaadumo haye bal hadda eega sawjad kaa halowdaa u daran saxalka jiilaale caawoo dhan soo maydaan arkayn way iga carcararaysaa naa kaalay na odaygaaga u kaalay maya maya xaggaad u ordaysaa adeer anigu waan kula daba taaganay sawjadayday soodhkii adiguna hal dee ma garanaysaa sacabadii dhigo suulashiina qabo sidaa u kala hay gar adag tuub laabaha ku yaal sawjad kaa halowdaa u daran saxalka jiilaale ha yeeshee haddaan saaka helay subaxanaan joogno aniga waa ii subax waan hayaa waxay carcarartaba waan hayaa ha yeeshee haddaan saaka helay subaxanaan joogno mar haddaan saliiddii hayoon subagna ii raaco bal ilmaade rayaal waxaa eega hortiinaan anigu ku kufsanayaa sawjadayda sow jafaadumo magacaa haddiyo kadib waydinkaa dee ha yeeshee haddaan saaka helay subaxanaan joogo mar haddaan saliiddii hayoo subagna ii raaco mar hadday sidii waxar dhilla ah barida saydhayso saasay magaranaysaa ii hor ruuxaysaa haddada nacallaa aabbaha ku yaal mar haddaan saliiddii hayoo subagna ii raaco mar hadday sidii waxar dhilla ah barida saydhayso sidaa u ruux sow inaan sidii kii gar adag saaran filimaysid sow inuu hadda ii kaa saaran yahay ma ogid adiguna aad sidaa ii hor ruxayso adigoo sacabadii yaa iyo suulashii nacallaa aabbaha ku yaal waa gabaygan anigu adiga kuugu talagalay sow jafaadumoy waaya hortiinaan ku mehersaday haddaba doodaydaan u gelaya laa habeetiisata subxaan allah niyo horta waxaan ugaga bilaabayaa 2 qodob oo keliyaan kala hadlayaa sawjadeeda waa sidaan u dili jiray iyo sidaan u addoonsan jiray haddaba waxaan kaga bilaabayaa awowgii oo calaacalaya oo la geelay waa dagaalkii ugu horreeyey waa markii aan burco ka saaray waa markii ingiriis ku soo celiyey waa markay la baxeen futuxun 2 dagaal baa xilligaa dhacay waa 1954 waa xilligay jeegaan noqotay sawjadeedu ninka ifkan ku ciilay waa aniga wax kalena kalama hadlayo waa guumaysigan ku hayay iyo saan u xasuuqay u gaagaabiyey 4 sanguruud ee dusha iska saaran ee aan ifkan ku ciilay 110 libnood baan u sheeganaya hadday galaysaa habarawal sidaan anigu waxa kaalama hadlayo
maygayga waxaan adiga kugu sameeyey horta maygii ugu horreeyey waaban kuugu dee ma garanaysaa qoorahan yaa caadi saacaddaa waad ii mehersantay soo jafaadumay haddaba bal dhegayso waa markaan kaa dilay 13 nin geelaagii in yaroo aad haysatayna aan kaa dhacay iyo awowgaa oo calaacalaya waa maxamuud cali fadal isagaa afkiisa ka qiraya muxuu yidhi iyadoo markaa daran ka timi oo daaqna lagu foofshay iyadoo kuraha diinlayaal xeradaa loo deyray iyadoo daraysay markaa laga daboolayo iyadoo durbaan moodo iyo daramalkii gaalka oo ay dig kaga siinayaan barqabadu doobto bal dhegaysta daandaansigii geelayaga laguma doonteene muxuu leeyahy waa laysoo daandaansaday oo geelaygii ayaa layga qaaday daandaansigii geelayaga laguma doonteene subxaan allah waay wuxuu yidhi duhur lagama qaadeen halkay daaqa ku lahayd duhur lagama qaadeen halkay daaqa ku lahayd ma ka qaaday geelah mise kama qaadin duhur lagama qaadeen halkay daaqa ku lahayde alamaanka doobsaday markuu doorkii naga laayay 13 nin ayaan baktigooda waray markaasuu calaacalaya uu leeyahay alamaanka doobsaday markuu doorkii naga laayay nacala aabbaha ku ya waayo ninkan aan doorkii ka laayay addoon yow addoonku dhalay weligaiyo allahay saasaan kuu dilay maygaygan weliba mayga ku xiga wax kale kuma garanaysaa waa saan kuu dilayey iyo saan kuu waseeyey iyo saan kuu xasuuqayey mayga ku xigana saan kuu guumaysanayey iyo saan ifkan kuugu ciilay addoon yow addoonku dhalay waayo maygaygan ugu horreeya waan kugu mehersaday gabay adiga soo jafaadumoy kugu socdana haddaad ka jawaabi karto waa lagaaga fadhiyaa ummadduna way ku wada maqlaysaa haddaad ka jawaabi weydo micnaheedu waxa weeye de waad ogolaatay waay muxuu yidhi awowgaa alamaanka doobsaday markuu doorkii naga laayay maxamuud calow dirir markii layga dayn waayey maalin walba waa saasaa lay dilaya oo waxaan ku uri waa magaranaysaa maxamuud calow dirir markii layga dayn waayey ee aan deliishaday inay daacad tahay toodu laa xawla illah walaa quwata ninkii sidaa yidhi war horta ma lay maqlaa waa lay maqlaa soo aad maaha u weyn aad u weyn waay markaa waa kan leh wuxuu yidhi haddii aanan dee gabayga calaacal caynaasha dalab baan lahaa degala naafee reer weydka dihin baan lahaa dayrta ku cashee haddaanan reer sugu la dilin daaca ii dhiman iyagana durduurtan ku heli doorkan dabadeeda waan aarsan doonaa buu leeyahy waa dagaalka labaad markuu dhacayo haddaba maxaa dhacay dagaalkii labaad shantiisii abwaan oo uu ku jiro kani waa maxamuud cali fadal waa yarkuu dhalay waa ciise tuur waa maxamed nuur fadal shantii abwaan ee ugu waaweynaa ayaan hortiisa ku dilay intay ka carareen 29 nin baan dilay 29kaa waxaa shantii abwaan ee ugu waaweynaa ayaa ku jiray magna maa siin markii dagaalkaa labaad dhacay 29 ninaan dilay bilaa magna aan ka dhigay shantiisii abwaan ay ka carareen ee ugu waaweynaa ayaan soo qabtay kii lahaa waan aarsan doonaa iyagana durduurtan ku heli doorka gabaygii calaacalka ahaya hadda aan tirinayey ayaan soo qabtay waa maxamuud cali fadal markaasaa maxaan ugu jawaabay ilaan gabaygu darandoori baa la odhan jiray uu tiriyey calaacalka ahaa markii yaa daandaansigii geelayaga laguma doonteene duhur lagama qaade halkay daaqa ku lahayde alamaanka doobsay markuu doorkii naga laayay markaasaa waxaan ugu jawaabay darandoorigiisii miyaa lagu dambaysiiyey oo ma daqiiqaha ayay ka dhigeen daamanka iyo koodka
maxigaalkii oo durugsan ayay dani ka soo reebtay micnaheedu waa maxay tolkii way ka carareen markaasaan birta dhaafiyey oon hortiisa ku dilay 5tii abwaanba bal hadda eeg markaan dilay ayaan haddana gabay kale ka dul tiriyey markaasaa maxaan idhi cabdilaahi ogow halkaa dhig way kaa dhacday xirsi amaanow ninka waxaa soo gelaya way maqlaysaa mujaahidow kamay dhicin ninkan 51 buu kasoo qaatay plus 20 11 buu ka dhacaysaa si toosa marka kamay dhicin okay inaad markii inaad ka tiriyo wada hayeen halka daqiiqo ku dar saasan wada soco ku qaado xirsi amaanow waaya thank you inaad war walay maqlaa soo maaha waa lagu maqlaa sida haye waay aadiya sida markaan dilay 12 soo dhig sida inaad waad iga dhex galaysaa iga baxdee mayga waay markaan dilay 5tiisii abwaan ee ugu waaweynaa balsaan ugu lib sheeganaya aag ayaan haddana gabay kale ka tiriyey bakhtigoodii iyagoo tolkood ka cararay cabdilaahi ooglow baan idhi intaan ciidda lagu geynin cabdilaahi ooglow waa hal nin oo aniga iga dhintay cabdilaahi ooglow intaan ciidda lagu geynin 20 inuu kuu nafbaxay cidima kuu sheegtay 20 nin ayaa hal nin loo dilay oo ay ku jireen 5tii abwaan ee ugu waaweynaa inaan caana dabadaa la dhamin cidima kuu sheegtay cali fadal waa maxamuud cali fadal yarkuu dhalay waa inankiisii hortiisaan ku dilay isaguna abwaan buu ahaa cali fadal yarkuu dhalay inuu rayfal ku ciyaaray maxamuud cali fadal cabaadkii ka baxay cidima kuu sheegtay nin iyo aabbihii ilmo fadal ifkan ka tirtiray cali fadal yarkuu dhalay inuu rayfal ku ciyaaray maxamuud cabaadkii ka baxay cidima kuu sheegtay ciise tuur waa abwaan kale inaan kuu nafjaray cidima kuu sheegtay waxaan sidaa u tirsanayaa waa abwaanadiisii halkaa dhig aadiya halkaasaad dhigaysaa marka waxaa soo gelaya marka ninkaasaa soo gelaya ra-iis ugu qorati ra-iisow waxaad ka xambaaranaysaa 13 haddaad doonto minidka waad sugi kartaa sidii isaguba yeelay haddii doontona kanaad yani ku xigaad qaadan kartaa aduu 13 ka xambaaro waxaad soo dhigaysaa halkaa 3 war aniguna minidkaa sugaya minidka 4 baan ka xambaaraya ayay markaa minidkaasaa dhaco waaya waa sugaysaa midka dhammaan akhyaarta sharafta badan waan idin wada salaamaynaa maygan waa mayg xalaala waxa ku yiri waa mayg aan habeen lagu caayin waa maygagii la yaqaanay markaa sidaa sharafta leh noo dhegeysta kolley mar haddii dembiga la qaadanayo dembiga yar baa fiican marka aad baad mahadsantihiin markaa sii daadaba 4 ka xambaaro ra-iisow waay 4 baa soo dhigaysa war waay mudgal waay waa mahadsantahay niyo horta dee waad arkayseen ilaah baa idinku dhaariyeen inantii yarayd ee futada buurnayd ee afka casaysan jirtay 15 minid bay waxay ku qaadatay gorgorod baan furayaa kariim baan futada marsanayaa dee adiguna waa ila soo daba istaagaysaa waay horta waxaani waa waxaad arkayseen awowyaashii horta waa cadradii caadada lahayd wey sidii inan cadrada oo hogiya gogol ku ceebowday ama inan cusayb lagu arko caado lagu baajo carcaraafaya xale miyaan ciil la ladi waayo horta waa tii wey waa inantii caadada lagu baajiyey ee awowyaasheedna gambaa madaxa noo saaran iyo guufka naaga wuxuu yidhi hadalka waa gaftay maxamed kuma soo gelin gam inaad tidhaahdaan damca cali garaaxaay naagtii gambada taabatay ee gacanta loo maydhay ee futada gelisay gabaygu sow maah adeer geeraarka iyo faanku sow guban la xeer maah horta faanka waad arkayseen dee dumarkaa faani yaqaan laakiin mar haddii halkaa ay gasho aniguna sida dhalfada loogaga soo saaray ilaahay waa i baray waana gadagadeeyaa ma garanaysaa inan afka casaysata boqoradda xersiye aaminaay
caawa dhalfaa kugu jirta ama reerkiinu ha duubto ama kuwa iyagu ha duubto ama ciddii dooniba ha duubtay waa ku gadagadaynaya sidii aan kuu jaraha kuu bari jiray waa kuu baraya awowgaagii jaraha la barayna waa kaa dabageynaya jilbihii dhulka laysku dhiga waa laysku dhigaya waay wuxuu yidhi geel baa godlada maalintuu reer gabaasiye isagaan gablool iyo lahayn gaagax abidkiisee gamba tarantay waxay gaasirtaa gool aan u dhaline ma gudboona gacal haybistiyo geesiga xumiye adeer gaarid baa tahay iyo gacal haybis xun baa tahay aniguna geesi sangale oo ku sayeynayaan ahay mana gudbooni goombaar yahay goombaartu dhar haddii aad gamaankiyo fardaha golo ka jeedlayso heesaha magaal lagu guro gaabiyaa nacay guluf baxaya guuraha habeen gaade iyo haayir ma gudboona geenyada xaragoota iyo sangaha gadagadeeya adeer adiguna geenyo futa buuran oo barida ka laafiyotaa tahay aniguna sangihii ku gadagadaynayaan maynagaa gudboon sangaha waa taqaanaa dhalfadiisa adeer dee wixii ilaahay ibaray sidaasaan kugu kala jeexaya kariimna waa kuu marinayaa dabada iyo burcadka dumarku ma garanaysaa ay ma garanaysa caanaha ka dhiilaana sibikh baasha ku dhaafta intaa sidii awowgaa jilbaha dhulka kuu dhigo ayaan toos kuu gelinayaa naag yahay naagtu dhar rag uunbaa gabaanada u sida biici gorgoradii nacalabba aabbaha ku taala gasab waxay ku kala iibsadaan shayne gananacdii iyo guurdoon haddaad tahay naaya xirsiye aaminay asaad weliba futadaada guunyo ku bixinayso waa gaadan jira inaan kii go'san karayaay weliba futadaada waa inaan lacag ku dhiibto dhalfaan sidaa kuula qaadaya kii goosan jirayna waa aniga sangihii dhalfada weynaa wuxuu yidhi guurdoon haddaad tahay asa guunyo bixinaysa waa gaadan jiray inaan ninkii goosan karaaye gabadh waliba waa hooyada tay u garataay adeer hooyadaana kalaab hoos bay kugula jirtaa anigu waan oga dhaqankeedii baana sidataa dhaqan kale kalaab hoos kulama joogtid aan ahayn futaan la iga wasaa iyo boqorad baan ahay iyo makhnuud qowmuluuda baan ahay 24 saacadood gorgorod baa la shirtaa oo gurbiyada la joogtaa walaashii wasaa lagu yaqaana ninkii Addis Ababa walaashii ku guursaday sawradii baan hayaa halkaasaan soo saaray inaad halkaa ra'iisu ku joog inaad dumarku waa laga ku xidhay bahalka inaad kor baad uga baxaysaa anaa hoos geeyay ninka dumar way sharciga dhignada sida ahaa kor baa loo soo qaadaya soo qaad waa la soo qaadaya laakiin dumar in soo qabso may waa sida sharciga inaad ninka qabtay waradar igu dar baasha may waa kugu daraya ana ka daba geenaya ninka ra'iisu halka inaad meegogi hore ma joogin baan u malaynayaa gabadh malama soo hadal qaadi kareen adeer waa lagu ku daraya halkaas ka bax marka inaad ninkaana bas xirsaban oo inta dhaafaysa marka waka deena anu gabadh ma caayo ma inaad walaashii hooyadii midna soo hadal qaadi inta way iga saara hal daqiiqo inaad soco hal daqiiqo xaga dib kaaga darda ku soco way iga saara ka bax waaba ka baxaya arrintaas laakiin de dhaqan xumadiisu baan ka sheekeynay horta inuu ninku ninkaa yahay ayuun baan anigu ka sheekeynay sawiradiina anigu aan hayo un baan ka sheekeyn laakiin anigu gabadhna ma aflagaadeynin walaashiina anigu dee ma aflagaadeynin waa gabar laakiin waa isaga horta khaniisku dhalay ee madhalayska ah ee ma garanaysaaye 40 jir isagoo awariya 20 nolol kama dhac caawa dhan ra'iis halkaa maxaa ku qoran xirsi amaaniya sood waxa la yidhi odaygii baa soo socday markaasuu caruurtii yaryarayd oo dhan buu la baqay odaygiiba caruurtii kuu daba mariguysay adeerow haddii soodh uu imikaba kuu daba maro iyo haddii raggaa kale ay kuu daba maraanba adeer dumar baa tihiin waana idin gaadan jirnay dhalfana waa idinku sii dayn jirnay kii soo gaadhiba waa idin darsanaya waay waa igu dara adeer baasha wuxuu yidhi gabadh waliba waa hooyada intay u gurataye goombaartuba waxay caasidaa geesiga giradhiflayaani ma gudboona gaarida sare iyo libaxa shuqashuqeeya adeer ma gaaridaydiyo anigaa gudboonaan karna no ma gudboonaan karna dhalfa weyne iyo boqoradda xirsiye aamina ee afka casaysatay iyo anigu ma gudboonin adeer
ragna goodka waa isaga eegyahay gooyisa kala rooni waslo kala rooni buu ku leeyahay gambi waranka gaashaanka ficil goray dagaalkeeda guddi murantay waayeel garame xaajo lagu guuray gacantiyo gasi laga baxshiyo gurigeeda hawsheeda adeer waa ii goblaysaa sariirta gobonnimo dhammaanteed haddii la isku wada geeyo ma gudboona geesiga hanta iyo gabadha caydaa sidee u gudboonaan karnaa islaan sariirta ii ma garanaysaa goglaysa iyo adeerow geesigii sariirtaba ku ciyaarsiin lahaa ma gudboonaan karaan waay horta kaas inta waa kusii socon lahaa laakiin intaasaan ba horta ugu daynaya wuxuu kuleeyahay ra'iis baa gabay u furay waa ka soo jawaabi waa ka kanayni wallaahi oo bilaahi oo tallaahi rabaso tiri ade rabaso tu niyo hargeysa 14 khaniis baa weli isu guursan maanta rabasa tu baa adeer ka dhacday meesha la yiraahdo niyo hargeysa iyo isha gobka culimadii oo dhan baa ka qayliday fawaaxishka iyo khaniisyada la maxkamadaynayo rabasa tiriibna club house bay caawa ka dhacaysaa dhalfadiina waa la isqaadsiinaya waay taa horta taa halkaasaa uga imanaya bal waxaan u gelayaa horta waxaan inuusan taariikh ab iyo isir uusan u lahayn maygiiba wuxuu ku dhameeyey ra'iis baan caayaya dumar yaryar baan u diraya maxay baan ka war adeer waxaasi mayg ma waay gabay uu soo qaatay wuxuu yidhi gabaygii uu soo qaatay waa gabay ma garanaysaaye bal ilaah baa idinku dhaariyey fuluhu dhalay ee carari jiray ee baxsan jiray marka aan dilo ee dubbuhu igaga dhaco la waayi jiray yaryarka iyo inta yar ee aan termin soo horreysiin jiray reero badan baan maanta termin oo anigu sidaan dubbaha ugu dhuftay ka kicila oo maanta bowdad u jaban tahay naagyow naagu dhalay ma adigaa gabaygaa soo qaadan kara waay daandaasigii geelayaga laguma doonteen halkaasuu mariyey gabaygu waa dheer yahay laakiin wuu ka kala booday anigaa gabaygeedii maray wuxuu yidhi darandoori waa u ridi jiree 10 miya daadshe ma 6 baan daqiiqaha ka dhigay duubiyaha xoogga ma 20 wada diidayay dani ka soo reebtay waryaa reerkii dhannaa ee futaxajis baa 20 qof oo maxaabiista loogu tegay war deegaanka laysku dileed iminka ka warramaysaa 1954 so deegaanka wiilkaa dhoqoshay ugu qorantay dhoqoshay ma ah deegaanka awowgaa yowle uu yidhi hayaay ba'ayey kumanaan habar iyoonisaa haydhbay maantase isagana lagu bireeyey so deegaanka ma deegaanka ka warramaysa naagyow naagu dhalay anigu deegaankii maanta ma degana sidaan doono ma ka yeela oo ma ku dhaqlaya war markuu soo tiriyey ninkii la odhan jiray yowle waa kii suldaankii baktiyey barida weynaaye hayaay ba'e kumanaan habar yoonisaa haydhbay maantase waxa gabaygaa ka soo jawaabay isaga awowgii kii guba ku jiray muxuu ahaa jaamac xirsi dubbed wuxuu yidhi afku adiyo yowlaba kaa noqoy akh iyo xaaraane adba aadan caws baad xirsiga ku eryanaysaa ma ilowday suuslaba rag baa aabbihii dilay waryaa faarax suusle isaga iyo kii ka weyna waa 2 suldaan labadaba raggii cunay ayaa caawa ku hor fadhiya markaasaad doonaysaa inaad halkaad intaad soo fadhiisato aad tidhaahdo gorgoradaan furaya gorgoradaan haddaad furto saw sidii cadraddii caadada lagu baajiyey oo kale aniguna intaa ku geliyo soo kugu baajin maayo naagyo naagudha waay wuxuu yidhi darandoori waa u ridi jire 10 miyaan daashe ma 6 baan daqiiqaha ka dhigay duubiyaha xoogga ma 20 wada diiday dani ka soo reertay nimanbaa dubbuhu igaga dhacay lama sadoonayne caynaasho dalab baan lahaa degala naafi horta reerkii reer caynaasho la odhan jiray waa la waayay meel ay raad iyo cirib ay dhigeen waa reerka dagaal intuu geliyey reerihii yaryaraa muxuu ahaa muuse cabdalle muxuu ahaa muuse yaryarkii de cawl iyo wixii carabala cabdimidgaan kuul carre shiish carre dandaan horta wixii oo dhan bay iska soo horreysiiyeen reer xuseen wixii yaryarkii oo dhan markaasaa waxaan ka dhigay ma 20 wada diidayay dani ka soo reebtay adeer nimanbaa dubbuhu igaga dhacay lama sadoonayne wuxuu yidhi caynaasho dalab baan lahaa degala naafeeye reer weydka dihin baan lahaa dayrta ku casheeye halkay mareen adeer waa la baafinaya danyarow xuseen iyo ma galay dabatadii muumin adeer kuwii doofaarka daban jiray
ma garanaysaa sagaarada daban jiray ma galay muuminkaasi waa muumin xirsi iyo yaryarkii oo dhan ma galay oo adeerow darandoori iyo dubbe ma la dhacay ma adigaa gabaygaa soo qaadan kara naagyo wuxuu yidhi danyarow xuseen iyo ma galay dabatidii muumin haddii aanan reer sugulla dilin daaca ii dhiman iyagana durduurtan ku heli doorka dabadeed wuu sii ishaaranayaa wuu sii og yahay in uu dili doono dayarta soo socota ama ha dhuubtaan ama ha iska war ninka u geliyey gaashaama geliyey ee carro ogaadeen oo bakhtigooda lagu soo wase geliyey sow aniga maaha yay waxaani ka ordayeen oo ka cararayeen oo dubbaha la daba joogay oo adeerow daacaa ii dhiman haddaanan kuwa kale dhegta dhiigga u darin waayo sow aniga maa naag ibnu naag ilaahay baa dilay oo addoon dhalay oryaa gabayga halkaa ii saaran brofilka mataqaana hoyga sugaantu ku jira adiga awowgaa gabe xaddi baa tiriyey addoon yahow addoonku dhalay ee anigu aan lahaa sidaan doonana aan ka yeeli jiray oryaa dirham baan ku siisan jiray dilaal baan kaa ahaa futadaada xun baan dilaali jiray naagyow naagu dhalay gabaygaa markuu dhammeeyey ma tegine haddana uu soo noqdo anag baa aabbaha oo nigu laandheerisana waay libaaxi waa soo noqday wuxuu yidhi maasada iskuma guubiye waa u gartariyaaye galdaloolo ii muuqataan guruf ku saaraaye gabnay kuma ahayn maantiyo gambar ahaantiya inuu sahaatan iga guurayo gaab islaymoode waa waxay gunuunada u barteen gadashada eeg wuxuu yidhi darkiisii lagu gubtaan nin ogi dibigu guulaaye geldhigaan wax laa iyo rasaas gowle laga yaaca anay isa gaabiye maan khalqiga gocan tugaaleeya fallaadh gooban iyo maan gantaal gunuga liishaama sidii goolibaadh maan madfaca gawda kaga saara gool ubaxla iyo maan sidii aar waxgala gooyo bilaash looma guuxe halkuu galaba maan saara buu yidhi wuxuu yidhi gabiir nabadda giirgiirtan iyo galangal leydhkeeda dhalin wada gadhla ah iyo sidii bahal gado iyo nin waliba megliga giiji garacyo dhaadheeree goolaaftan iyo faan ka siman gada iyo reeraade garkaa iyo garkaa laba qoloo goobi kala gaadhay gegabadiyo qaylada markay go'aydu yeedhaysay naagyow naagu dhalay markay dumarkaagu hoogay oo ba'ayey oo tollo'ayey oo ma garanaysaa aawe wixiiba 20 baa laga soo reebay doofaaradu dhashay ma 20 wada diidayay dani ka soo reebtay ayuu adeer wuxuu ku leeyay wuxuu yidhi laandheeruhu dhalay nin waliba megliga giiji iyo gacalka dhaadheere goolaaftan iyo faan ka siman gada iyo reeraaye garkaa iyo garkaa laba qolo goobi kala gaadhay gegabadiyo qaylada markay go'aydu yeedhaysay gorgorkiyo dhurwaagu hilbaha gegan ku loolaay halkaasaa nin geesiya fuluhu kula gudboonayne haddii waran la soo galo ninkii guud maraa adeerow ninkii ma garanaysaaye naaga oo jilicsan baa baqa oo dhuunta oo baxsada warniyow deegaanka la isku haysaa soo maaha dhoqoshay guutada mareegani markay dhoqoshay maaxaysay maalkiina goortaan harkii meel isugu keenay muslim iyo kufri uumiyaha marag miyaa joogay reer cawn sidii loo wadiray waa wakinayaane wiilkii u geraari jiray iyo waaye yowlana war ma abwaan yowla kaaga weynaabaa jira ma suldaan faarax suusle aabbihii kaaga weynaabaa jira adiga awowga kii naaga ahaa ee ma garanaysaa guba wuxuu yidhi guba ku jiro horta waxaan ani guba igalama sheekaysan karaa wallaahi oo bilaahi oo tal dhalfaan sidaa u dhex dhigaya hadduu guba soo hada qaado naagu dhalay xug guba ka yahay jilicsan buu ka yahay waayo wuxuu yidhi waa kii guba ku jira ee yidhi godobta ha ogeysiin rag wa garacyo sheegaan wuxuu yidhi ogaadeenku waa gamacsan yihi gabasya ha u dhiibin godobta ha ogeysiin bal oohinta ka dhacaysee rag wa garacyo shaydaane buu ku leeyahy haddii kale wuxuu yidhi haddii kale ka joog gacalow meelaha gocan tugaale gacaliyo buu ku leeyahy cali dhuucaale waa awoogi waa ninkaas weeye ninka kule afku adiya yowlaba kaa noqoy akh iyo xaaraane adba aadan caws baa xirsigu kula eryana ma ilowday suuslaba rag baa aabbihii adeer ku cashiyey oo dhalfasa u dhex qaada waryaa ninkani waa ninka harag waafi adeer dilay ninkani
waa ninka labadii ilmo suuslaba isdaba dhigay waa ninka yowle oo abwaan kaaga dambeeyey kaagana horreeyey uusan jirin qoorta inta uu ka gooyey geed ka soo laalaadiyey adiga iyo shiish wanaagga iyo kuul carraha iyo midgaan carraha iyo dandaan carraha iyo carabalada iyo cabdi waar mareer waxaasi ku jiraan baa lahaya nacalad baa idinka iyo hooyadiinii ayaxa cuni jirtay ee caydha ahayd ee jaamac dubbad bakhtigeedu dirxiga ku galayba ku taalle oryaa ma adigaa kafta ku sidee u hadli kartaa ninkii kulahaa ee dhaartaba kaaga bixi jiray intuu kuu kibro ku dili jiray ma adigaa soo hor fadhiisan kartaa gidir yahay keliyaha ka naaxday ee ma garanaysaa adeer goombaar baa tahay kii ku sangasangayn jiray baana caasiyaysa naag ibnu naag baa tahay waay aan ku sii socdo waxaan nijaasta ah oo ma garanaysaa wixii ilaahay i baray aan sida awowgii baan haddana u soo qaadanaya waay kii la odhan jira birdhiile waryaa oo caddaynaya inaan raggiisii laay waa garxajis waa kii la odhan jiray ma garanaysaa muxuu ahaa waxa reerkan muxuu ahaa yaryarkoodu de waa ciidagale wax noocaasaa la yidhaha waay wuxuu yidhi salaamade malaha yuusufoo socota ceeryoone selef duulayaad wuxuu yidhi selef duulayaad fuushan tahay sulub andaari horta dhurwaale waa nimanka meesha maxay ahayd garhka yogolka 12 siduu gabaygu ku yimi baa idinka sheekeynaya 12 suldaan baa waxaa lagaga dilay meesha la yidhaahdo garhka yogolka waa meesha uu gambada ka xidhay ee uu yidhi gambaa madaxa noo saar iyo gu'ufka naagtan cadradu keentay caadada lagu baaji waay gabaygaa waxaa ka soo jawaabay kii anigu aan bireeyey ee yowle wuxuu yidhi waa idiin soo gurmanaynaa gabayganay nimankii ma garanaysaa lawasi ku soo jawaabeen adeer raggii ku dilay baa burco kula fadhiye ee kaa dilay salaadiintaadii maxaad halkan ku imanaysaa naagii oo ma garanaysaa annaga noo gubaabinaysaa buu kuleeyay wuxuu yidhi salaamade malaha yuusuf oo socotay ceeryoone selef duulayaad fuushan tahay sulub aan daalaynay jidka sahal alla kaaga dhigo surin barwaaqowde waxaad sii sabaysaba ado siiga iyo boodha suuqii burciyo baydin geli salagyadeedii iyo malahay kursay kuu sallixi oo qax waad suganee gacanqaadka lagu saaraya soofka kaa guriya warka haddii lagaa sugo wuxuu yidhi warka haddii lagaa sugo haddii lagugu soo yoomo surmaseegta haw odhan wuxuu yidhi badwaa hadalku seegaaye inta sugulla caynaashay degasina u weydaarsan siciid kaba dhammaantii haddaan mana ku seeteynin sacad yoonis iyo muusayaal saacaddaad aragta salaan iyo wanaag nooga gee waana sugayaane sawdkan kuu furana yowle yuusina u weydaaran abaar soofmeertii hadday dunida seerbaybiso sumalkiyo duqdiyo awrku waa xoolo kuu simadha intaad socodka dheer iyo eegaysa suntiiyo daalka safarkiyo baydun filan soofka soo jabadhe sititiraha gabaygii ahaa nala siiloonaadhe inaadee hurdada weli ma sugaan saad wax noo tidhi aniguba sakhaawi la dilay waan ka selelaadhe adeer aniguba suuslihii la dilay waan ka selelaadhe adigaa silane nimanku waa iga sokeeyaandhe adeer nimanku way ila joogaandhe subax noolba ceelkii burcay kugu salaamaandhe naagyow naagu dhalay ee dilan ee bahdilan adeer ragguba waxay joogaan ceelkii burcay joogaan niyow wuxuu yidhi adigaa silane nimanku waa iga sokeeyaandhe subax noolba ceelkii burcay kugu salaamaandhe oo soofka laga iibiyaa laguna sooraadhe yacni gabdhaha laga iibiyaa oo lagu soorteeyaadhe dee gabaygaa inaad marsan anu gabadh uma jeedo laakiin waa gabaygunbaa ila galay ma garanaysaa adeer wuxuu ku leeyahay waa iyagii waxaa isku leh wuxuu ku leeyahay habar yuusaay nimankii suuslaba kaa dilay burcay kula joogaan gabdhahana ku casuuntaan niyow oo ma garanaysaa aad midhmidh u siisaay maxaad aniga iga soo eegi oo nimanka i dilay aniguba wuxuu ku leeyahay nimankii i dilay waa ma garanaysaa waa qalbigaa ila madow aniguba sakhaawigii la dilay waan ka salalaadhe buu ku leeyahay hurdad ladi waaye oo seexan waaye oo kuwii i dilay ayaa ma garanaysaaye aan ka ladi laaya adiguna kuwii ku dilay way kula joogaan adeer gabdhaana ku sooryeeyeysaa kuna casuuntaa horta kaasaata waa ku dilay waxaad igu darto waa iska garan kartaa waxba afka ku ballaadhin maayo hadda dee waa la isdili jiray addoon
addoon dhalay oo bahdilan baa tahay gabayga brofileka ii saaran waa awowgi waa gabay xoog ninkii la odhan jiray waar balniyow anigu awowgiiba uga bixi maayo intaanan meel kaleba gaadhin isaga awowyaashiisii ma garanaysaa midina cadrad isku sheegi jiray midina naag isku sheegi jiray midina uu odhan jiray wuxuu yidhi soomaali oo idilba allah hooyadaa ku yaal oor wax ma ku socon mise waan ka daaya soomaali oo idilba waa u sacatareeyeenay soocane ilaahoo ku bixi sabanka duulaaya samaydin ma dhidhido markay seenyo ololayso sacad yoonis iyo bihi darays sayma ugu oodma sawliila waa taad wax badan uun kasabateen war soocane waay waa ay hortaas hadda way kaa addoon dhacday addoon maca halkii daqiiqeed ay tahay markii digtay waa lagugu daray war waxa waay wax ka hadal dhaniyo naaga waad halkaa dhigin adeer halkaa dhig gelaysaa muudka boqorow gal waxaad ka qaadanay 36 56 baad soo dhigaysaa 20 kale niyo horta sawjadii weydinka arkaya mar waxay aadaa garhka yogolka mar dhurwaale war anigu habara walna kaalama hadlayo aduma habara wal baate garhka yogolka waxay dhex martay garxajis iyo awal dhurwaalena waxay dhex martay garxajis iyo ogaadeen waay haddaba anu adaan kuu lib sheeganaya ama habara wal aad ama ogaadeen aad anigu meel kale iskuma qaadayo waay sawja faadmo bil dhan baad maqnayd caawana waa lagu kari waayey xaajiga u kaalay na soo fadhiiso waay ilaahay bay tiisa tahay wuxuu ka hadlay dumar horta dirxilaha madheer waa cas yahay daawashada guud waa ayeydaa inan kaa yari waa tol jeclo laakiin nasabiyaddii baan ka bedelo axmed faarax buu sheegtaa si uu aniga ila gogosto wux waa waxa ah tol jeclo sheekh saxaaq iyo sambuur sheekh saxaaq iyo sangururi sheekh saxaaq iyo muuse sheekh saxaaq iyo cimraan sheekh saxaaq laa ilaah intaaba ha ahaadee maanta anigu hal nin baan ahay ismaaciil sheekh saxaaq baan ahay isaguna waa 5 nin oo mid waliba sheekh saxaaq yahay reer sheekh saxaaq waa 8 4 ayaa habar jeclaa ama habar xabuusha ah haba noqdaan wuxuu yidhi burcaan qaaday ilmaade riyaal hadduu hal maayar ii sheegto hargeysa maayar anaa ka ah maanta burco maayar anaa ka ah ceeri gaabo maayar anaa ka ah bal haddee waxaanan ahay ismaaciil sheekh saxaaq isna waa 4 sangururi waa cimraan sheekh saxaaq waa sambuur sheekh saxaaq waa muuse sheekh saxaaq waa toljeclo sheekh saxaaq hal maayarna ma laha oo ceeri gaabo maayar kama aha oo burco maayar kama aha oo ceeri gaabo maayar kama aha maxay ku caddaynaysaa taasi inaanu deegaan lahayn hadda waa caasimadihii bari hadday noqoto gobolka togdheer wax laga xukumaa burco anigaa maayarkaa gobolka sanaag waxa laga xukumaa ceerigaabo 30 sannadood anaa maayarkaa gobolka maroodi jeex waxaa laga xukumaa hargeysa iyadana anaa maayarkaa gobolka saaxil waxaa laga xukumaa berbera iyadana maayar ku-xigeen baana waayahe maxaad igala hadlaysaa 4 sangururiyo dusha iska saaranna waa tahay haddaad maayar ii sheegato intaa soo magaalo maygaa waan daroob garaynaya waaya waxaad ka hadashay dumar horta ninka suldaanka ku ahaa 500 ee sannadood ee ku guumaysanayay ee marka aad soo dhaweynaysid aad hablahaaga ugu quruxda badan laynka u gelin jirtay anigoo ahaa waxaad u qaadi jirtayna bal hadda dhegayso suldaan nuur axmed ammaan maalintii aad soo dhaweynayseen maxay awowyaashaa tiriyeen geeraarkii bal hadda dhegayso keli waa iga salaan halta la moodo iyo sayaxaanu ku jiifnaa sadadaada nabad baa leh gabdhaha suurta la moodo service baad igu jirtay niyow waay taasina
waa taa habla aad ka hadashay waaya kuma sii fogaanayo dhankaa haddaba waxaan u laabanaya inankaa yar anigu meel kale kalama hadlayo waxaan u sheeganayaa lib inaan dili jiray inaan gumaysan jiray waa labadaa qodob oo keliya maxaa yeelay kalama hadli kara deegaan oo maayar xitaa ma laha oo waa ninka gumaysi ku jira oo siyaasadda somalilan hal xisbi xitaa ma laha halka anigu aan ka leeya laba xisbigiisii shaani baa lagu qaatay waaya haddaba waxaan u gudagelayaa ninkan dhulbahante dagaalkii haye ee ay galeen muxuu yidhi haddaan muuse ismaaciil iga reebin maxamedow nabadba ma siiyeen wahaye markuu dhulbahanta saa u dilayo ninka ka reebaa waa aniga ninka gabaygan tirinaya waa dhulbahante haddaan muuse ismaaciil iga reebin maxamedow nabad ma siiyeen muslimkuba waa u jeeday waxaan mayd u moosmoosay muuniga aroortii markaan dagaal ugu mihiig yeelay muusanowga orodkii waatay iga galeen marinka gaashaamo bal haddee naaggaa naagu dhalay marka sidaa loo waso ee gar adag lagu waso adag ayuu qolkani noqonayaa badana waad dhigatay waaya muusanowga orodkii waatay iga galeen marinka gaashaamo majeenta gurigii lahaa iyo haye kagama siigeen muusanowga iyo hanjabaadda maantay wadeen maagtay dunidii mar haddaan daahir iyo xabuusho makalay oo dunida magan kaga yeelay laa ilaah magafkii ka hadhay habar yoonis iyo tolkood iguma sii dayn halkaa maxaa ka cad inaan anigu dhulbahanta ka celiyo inaan dabadooda sidaa u ilaaliyo waay dad badan baa markay maqleen gabaygii aan dee sawjadda u tiriyey ayaa waxay yidhaahdeen maxaad sidaa ka yar sacabada dhulka ugu dhigaysaa maxaad sidaa ugu kufsanaysaa mid baan leeyahay iyaga dheri jabiye geebaan lahaa dhagaxa laasgeeleh jiilaal dhacayaan lahaa gaajaha u dhimaneh dhuuntaa ka nuug baan lahaa dhuuxa yururo eh dhoolaha nuglaadaan lahaa dhiigga ku adkeeya dharaarana masruufsaan lahaa dhabarradiisaas anigoo dhulkii ka hinjiyey oo lana dhaqaaqaya ayuunba tolkay way dhibne igaga dhaarteene magaalada ninkii aan dhuftaba layga dhicinayo sow inaan dhabaha haariyoon dhaanka rara maha ayaan leeyahay iyaga horta gabaygii darandoori ayuu soo qaatay hadda waa gabaygu awowgii leeyahay daandaansigii geela yaga laguma doonteene duhur lagama qaadeen halkay daaqa ku lahayd alamaanka doobsaday markuu doorkii naga laayey maxamuud calow markii dirir layga dayn waayey ma waxaasaa libu noqonaysaa waa maya haddaba wuxuu yidhi faarax suusle aabbihii baan dilay niyow inaan markuu awowgaa taariikh kaaga tegin dhibaatadaasay leedahay horta faarax suusle aabbihii waxa dilay nimankaa muuse ismaaciil haddii aad muuse ismaaciil noqotay habar xabuushoy oo aad taariikh kaloo aad sheegato weyday maxaan kuu sameeyaa subxaan allah waay haddaba anigu waxaan kuugu soconayaa waxaan adiga kugu sameeyey bal arwaa kaase meel kale ha isku qaadin kursigana ha ka dhicin sawja faadumoy waaya waa kan waa isla dagaalkii futaxun waa markaan doollo ilaa iyo caado ilaa iyo hiiraan anigu iskaga soo gurmanayey waanan kuu caddaynayaa in ingiriis burco kugu soo celiyey 3 mar ayuu burco dagaal ka dhacay mar ingiriis baa kugu soo celiyey marna waxa kugu soo celiyey maxamed xaaji ibraahim cigaal su'aal baan ku weydiinayaa habar awal abaalkan ay kuu gashay ee habeen iyo maalin ay kuu sheegato ma nooga jawaabi kartaa sheekh cismaan nuur abaalkanuu kuu galay ma nooga jawaabi kartaa maygiisa dambe ayaan jawaabteeda kaa sugaya waa halkaa su'aal waay haddaba anigu waxaan adiga kugu sameeyaan u gelayaa bal dhegayso jufe jufaan kuu tirsanaya adigu jufe jufo waay
oday wuxuu dardaarmaa intuu dibadda siiyaale waa markuu caqliyara kula taliyey uu ku yidhi nimankan gurmadkoodu ma kala istaagaya haynagu doonan waa 1954 waa sanadkaad jeegaanta noqotay waanigana anigoo ilaa iyo hiiraan iskaga imanaya dhanka hubka inay iga raa xaggaa joogay wuxuu yidhi nimankaa gurmadkoodu sanad ma kala istaagayo ayaynaa isku doonan waaya bal dhegayso wuxuu yidhi oday wuxuu dardaarmaa intuu dibadda siiyaale doqonna waa la sii waaniyaa oo waan u digayaay haddii niman dekana kala fadhido dacri kaa jiifto durbe laguma boode baryaa laga dambeeyaaye hadday isa degata lama dayn kare ee annagoo dig weyn iyo fadhina doola iyo caado markaanu soo soconnay annagoo dureemiya ka badan duurka iyo hiisha oo wuxuu awoogaa caqliyare ka warwarsanaa taariikhda saan kuugu kala dhigdhigayo eeg anoon meel kale isku qaadin baabuurra duulaya oon daalin baa jira durba nimi daleelihii xarbiga laysu daadsaday meeshii aan kugu xasuuqayey futaxun foqol futaxun sii jeedkaaga ayaa ka qurux badan soo jeedkaaga sacabada dhigo sawja faadimoy hello waay way kaa dhacdaniyo xirsaamaanow war maxaadna siinaysaa ma 20 mise 10 20 bay ahayd in adeer wareer 20 bay ahayd mujaahidow maxaa uga qabat 20 maxaa weeye fiican labaatanaad in adeer 20 bay ahayd ninkii war hore wuxuu haddaaba dhigay qaatee dhegeyso ninkii hore inaad wuxuu dhigay wuxuu dhigay 5 iyo war 20 buu qaarkow dhigay 5 iyo ilaa 20 buu dhigay in adeer 5 iyo 20 buu dhigay imikana haa 5 iyo 20 buu dhigay qaarkow mad waa la imikana 6 iyo 20 markaa 6 iyo 20 buu ku bilaabinayay war 6 yaale iyo 40 buu dhigay wasada in adeer war hal dabayba maanaa tiriyey iikaad 36 buu dhigay in adeere maxaa khaldan ninkan 36 buu mawaalaya dhigay war plus 10 20 war 10 daqiiqaan hadlayeye in adeer waa saas warniyow weeye boqor 10 daqiiqo hal la ilaaha warniyow muu hadlayne warniyow ninkaaga dhulbaatay baasha madaacad baad u u haysaa kaadi mise in adeer cid u baad ku kaadi in adeer socotaa niyo saacadda annaga ahayna in adeer saacadda annaga ahayna yaa maxaa maxaa khaldan war dhegeyso mujaahidow dhegeyso haa ninkaas wuxuu ka soo qaatay 36 buu ka soo qaatay isagaba waad weydiin kartaa waa inagii isku haysanay 34 inuu dhigo waxa weeyaan aad tiri hal daqiiqo gabadha markuu caayay hoos loo dhigay 35 ay istaagaysay tiri halka daqiiqo waa lagu daray marka inaad 20 mayadaa soo taagnayd baashu niyow 36 buu dhigay ninkana wuxuu ka qaatay 30 wuxuu daniyo ka inaad qaatay si 30 cadaalada u hayniyow wax maxaa haa may khaldan wasa mujaahidow 10 daqiiqo hadday tahayna ii kaadi 10 aniga daqiiqo adigu hadday waynu tahayna tahaynaa laakiin niyow baash ma ahayne heerkaa kaga gaadhee maxaa khaldan hadda 2 daqiiqaad iga in adeer aniga khaldamay waa isugu soco hay in adeer soco waxaan moodayay in eeg waxaan moodayay inuu qaatay 6 iyo 30 waayahay ayay 2 adeer kugu daraya way kugu daraya iyariida hadalka in adeer may uma damqanayna wallahi waxaan moodayay halmaan hadal kuma jiro eeg waxaan moodayay inuu ka soo qaatay 6 iyo waa ma kugu daraya hal daqiiqo in adeer kugu daraya ku soco imika igoorma soo dhigaysaa waxaad soo dhigaysaa adiga waxa aan anigu waxa markaad bas way dhan tahay soco soco sawjadaada ayaan anigu ka degaya laakiin labadiina nin baa waqtiga ma garanaysaa 2 daqiiqo iyo bar igu dar waqtigeygii waay annagoo dig weyn iyo fadhina doolla iyo caado waa markaan soo socday annagoo dureemiya ka badan duurka iyo hiisha baabuurro duulaya oon daalin baa jire durba nimid daleelihii xarbiga laysu daadsaday daaqada miyaa naa bannayn daahir iyo faarax bal haddee egsaan jufo kugu tirsanayo miyaanan dabaylaha onkoday idinku soo daynin miyaanan sidii dowladdii kaa dulkici waayin waa 1954 kana eeg anigu mayga wax kaleba kuma qaadanayo saan kuu dilayey ee aan kuu xasuuqayey fidme ee bahay noo abuur farana noo yeeli nin fallaaga doontaaba waa finish garoobay waa adaa isku doontay adaa rabbigaa rasaas ka baryee ku raaxaysa riinka kaaraha gabay kastoo aan tiriyo xasuuqii aan kuu geystay ayaad ugu tegaysaa haddaan fulinay faarax cabdille iyo farac wixii raacay waayo faarax cabdille futaxumada maydkooda waran xuurta fadhanaysa futaxun foqol futaxun yaa futaxun kuu bixiyey yaa backuxaar kuu bixiyey yaa sii bakti kuu bixiyey addoonyow addoonku dhalay
magacyada nastay kuugu baxeen futaxumada meydkooda waran xuurta fadhanaysa reer yoonis tii aan ku falay farax miyaa baaqday waxaan saan u tirsanaya eeg dhurwaale garhkayo galka miga kaa saaraysaa naagyow naagu dhalay waa maya maxay yidhaahdeen arab markaan saa kuu gelayay galdadliqi dabaalnimaan aqoon waa digsiin jiraye maantana dugaaggii miyaad dacawadii laayay halkaas miyaad libka doonaysaa halkuu awowgaa leeyahay alamaanka doobsaday markii doorkii layga laayay daandaanshigii geelayaga laguma doonteen dadkii kalena ay ku leeyihiin maantana dugaaggii miyaa dacawadii laayay waa arab ayaa kaa naxay reer sheekh isaxaaqoo dhan ayaa isugu ka yimi si layga kaa baryo si aad burca ugu soo laabato waaya wuxuu yidhi waxarihii mahabar yoonis ayaa kaga wiqiiqsiisay anigu waan kula daba joogayaa sawjaday weligaa iyo allahaa intaad kalaab house iskaga baxayso anigaa saa kula daba taagan naagyow naagu dhalay waaya bal haddee mar kale waa kan waa awoogay waa mayg dhan ayaan ku qaadanayaa anigu waxaan adiga kugu sameeyey naagyow naagu dhalay laakiin adig ma awoodid waan ogahay hadda dhegayso hilaaceeda dayrtii markuu dirirku hoorayey markii labada daamood dhibta iyo daana kala gaadhay dad yartii xabuushiyo haweendoga maqijaan futaxun foqol futaxun xitaa dab inaad shidato ayaan kuu diiday reer daahir boqol baa ka hadhay doobabkii kacay saasaan kuu gaabiyey kuu gaagaabiyey oon lib kuugu sheeganaya jufo jufo dawaarkan ku furay yuusuf bay muran ku daayeene axmed faarax doodiya ka hadhe damaca maadhini kuwaana waan u diiday inay dib dambe qori u qaataan war sidaa ma u lib sheegan kartaa addoonyow addoonku dhalay weli anigu waxaan kugu jiraa dagaalkii 1954 waa maygii labaad niyow ama dhurwaale iyo ogaadeen isku qaad ama garhka yogolka isku qaad axmed faarax doodiya ka hadhe damaca maadhine dilkii reer biniin bay samane deris ku qaateene sidii duume reer raage iyo abubakar baan daahiyada u jaraya bal sidaan jufo jufo kuugu tirsanayo waxaan ku gaadhsiiye eg solomadow dabkeedaa baktiyey diric miyaa jooga waxaa eegniyow ma hal nin baan ka tegey waaye abtidoonna waa taan ku jaray dacalkii beereed reer yoonis dool kuma imane wuu u diirnaxay waa nimankii kuu soo gurmanayey markay ku dul yimaadeen wallahi way naxeen jufo jufo ayaan kuugu sheegayaa wixii kugu dhacay addoonyow addoonku dhalay reer yoonis dool kuma imane wuu u diirnaxaye duhur baan ku faray guutaday naga dalbaayeene bancawl baan dubaaxdii u wadhay weerka daaligay baktigooda waraabihii ayaa ka dhargay futaxun foqol futaxun sii bakti foqol sii bakti yaa waxaa kugu sameeyey backuxaar foqol backuxaar bancawl baan dubaaxdii u wadhay weerka daaligay u duceeya gaalada bil qura kama dambaysane waa markuu ingiriis ii kaa baryayey waa markuu reer sheekh isxaaqoo dhan ii kaa baryayeen ingiriis ayaana kugu soo celiyey burco waana caddayntii waa kaa awoogay kule waa nin reer xuseena waa cabdilaahi muuse u duceeya gaalada bil qura kama dambaysane hadda dhegayso awoogayo calacalaya waxaanoo dhan waa hal dhacdo waa maygana wiga dhici rabaa jufo jufaan kuu tirsanaya laakiin ma awoodid adigu waaya markay dayrtu daantaa sariyo waa awoogaa doola ka hagaagtay waa isagoo ka cabanaya gurmadkaygii sanadka soconayey waa markaan 92 nin kaa dilay bilaa magna ku diray markay dayrtu daantaa sariyo doola ka hagaagtay doon biraale iyo hawd markii doogu ka hilaacay degmo aan badnayn iyo rag yari naga dabay raaci waaya dilkii gumare ardoonistii loo diyaar noqoye markayse diriirtu reer daahiriyo duul galbeed noqotay dabriceliska waa wada ogeyn inay diiqo geliyeen raggii wadana laga doonay iyo gaadhiga ay dileen waayo raggan wadana waxay ku taallaa gaashaamo agteeda ragga muhollin laga keenay iyo murderka ay dilay buu yidhi mar kale awoogaa
iyadoo shirkii la dhex joogo waa markuu ingiriis ii kaa baryayey naagyow naagu dhalay bal sidaan anigu taariikh kuugu awood sheeganaya eg wax walba caddayntii baa la socota ragga wadanaa laga doonay iyo gaadhiga ay dilay ragga moholin laga keenay iyo murderka ay dilay waay ninse walaalkiis daab lala dhaco diidi kari waayey dumaashiisa naagahana waa laga diboodshaay axmed faarax doorkii ku jiray adeer waa la daawaday waxaan waa jufo jufo waxaan kuu gaadhsiiyey hadda imise gabay ayaan kuu soo qaatay waxaan ugaga baxaya abaalkaa aan anigu kuu galay ama abaalka uu ninka habarawal kuu galay ninka habarawal waa ninkayga kaa xoreeyey ninkaa hadda kuu naxaya waxaan kugu samaynayo waa ninkayga kaa xoreeyey awowgii waa sheekh cismaan nuur markaad la hadasho ood istiraado isku taag addoon iyo addoon ku dhalay ilaa maantadaas ayaad guumaysi ku jirtaa oo habarawal ku guumaysataa oo weligaa iyo allaha addoon baad ahay oo horena anaa kuu guumaysan jiray maantana habarawal baad iga hoos gashay ninka habarawal haddaad isku waashana wuxuu ku dhaha waryaa guumaysigii baad ku laabanaysaa ceelkaa tog dheer maxaa kugu haysta ceelkaa tog dheer ceelkaa tog dheer maalintaad ciidda fadhanaysay adaa ninka habarawal la hadli kara abaal buu kuu galay oo wuu iga kaa xoreeyey adoo ciilan saalada markuu curadku fiiqaya adoon kule saalada afka ku gur ayuu sheekh cismaan nuur intuu ii yimi yidhi inaad adeer miyaanad warkadaa nimanka sidan niyo wallaahi oo bilah meeshii lagu taabtaabo waa boog anigu wax kale kaalama hadlayo waxaan adiga kugu sameeyey ayaan kaala hadlayaa ninka ku ciilay ee ku yidhi saalada afka ku gur adoo ciilan saalada markuu curadkuu fiiqayey shaalkii cumaaniga ahaa lama caseeyeene markuu sheekh cismaan kuu kacaad caadi noqoteene goortaad xorriyadda iga qaadatay waa goorma waa markuu sheekh cismaan nuur kuu kacay ninka iga kaa xoreeyna waa kaa ninka habarawal abaalkaa kuu sheeganaya ee kule markuu sheekh cismaan kuu kacay ayaad caadi noqoteene ciise muuse caydaad ku tidhi calalnaq weeyaane cakuyeey abaal ma leh haween soo cilaansaday sawjadaay sawja faadimoy abaal ma lihid oo anaa ku og oo ninka habarawal wuxuu ku leeyniyo abaalkaasaan kuu galay oo aniga sheekh cismaan nuur baa iga dhashay oo adigoo lagu ciilay oo garxajis ku ciilay oo lagu leeyay saalada halkaa dhig way kaa dhacday maca labadii daqiiqan kugu darnay haye deeqo hadalnaade oradeerow de muud gala haye inaad sug raisoo kugu banaynayso ninka deeq ba hadlaya oo deeq suu hadlaya markaa muhiimay ku gargaracay maxay sugan tahay nin kala hadlay maxay tahay armuud galniyow dhe khansiir ku dhalay muud gal naa muud haye inaad deeqo haddaba ninkaasina bilaabana saacadiisi weeyaan muudka gal haddaba barniyey muud gal haye muud gal haye ku soconiyo maxaad ka xabaarataa ya naa deeqa barniyey muud gal deeqa maxaad tidhi war waxaan niyo mayga nooga baxdhe haye inaad er maygaas markuu dhamaaday ninkaas siinayna inaad er deeqo muudka yar gal haddaba maygana bilaabana niyo mayga ka baxdhe niyo haye haddaba nin kale waxaad ka xabaarataa iyo sagaalyo konta ka xabaaro waxaad soo dhigaysaa halkaa markaa kan waa kii labadii labaatankii minidkaasina dhaceyso de muway muud gal aniga may gal iyo cayna kada aarkood inaad ninkuyde adeer cayna kada inaad anaga ninbaad adu sigu haysaa cayna joojiyo adna sarayso addoon yahow addoon ku dhalay caynada iga urinaysa oo kuogahay haye haddaba eeg waxay samaynaynaa saacaddaas ha dhacda suniyo war waxaan maxamuudkii gelinayaa muud ha gelin adeer war anigu may oo ra'iisu may maqlaysaa fadlan lacag ku shubo kondom baad muud niyo dhegeyso inaad niyo dhegeyso lama inaad eeg adu arko ninkan adu hacay ra'iisoodna cayda joojinaade ninkan hacayan ninkan saacaddu hayadna joojinaade anaa ku hayaniyo imika bilaabo kala boqoro muud gala inaad boqoro muud gala saacadda way bilaabatay niyo hal daqiiq waxaani wuxuu og yahay caynaba nimankii ka qaaday buu ogyahay ha ooyo ama siilka hooyadii ha u tegay aniga waxaasi shaqadayda ma kii dili jiray ee addoonsan jiray baana laba simikaadhla gumaysiga ku jira kalaaba usoo galay waay kaasi waa qurjiilahaas dhulbahante aan uga baxo kan kalaa u tegaya waay niyo horta maygayga waa aragtaan
qaylada ka baxaysa qaqaqaqaq aan hadlo inantii barnaamiyo deeqa ee futada buurnayd ee wiilka dhoqosha layidhaa hadda ku biyo baxay waa arkaysid si u ooyeysid waay a ku sii socdo warniyo horta wixii waad aragtaan gabayguu soo qaatay horta dumar buu ka bilaabay adeer tambareeri baa lagu qabaa toban dhalkiinnii candhada weyneyd waa gabaygii seyd cawad waay gabaygii sayidka ee guri barwaaqo ku jirayna waa la yaqaana laba beyd oo isku xigaa laba gabay ku kala qoran yihiin de waa kaana waa la iska garan karaa wuxuu yidhi saacad iyo leyl wuxuu yidhi soddon dawlisa baa lagu shubaa saacad iyo leyl soddon baa isku weydaartuu ku leeyahy kii kalena dee soo wuxuu markay gus arkaan soo hirmaco maaha horta saddexdaasaan taasaan kaga baxaya waay waa waxaa club house waxay ku joogaan loogi waay bal aan u soo noqdo inanta warniyo horta waa ogeydeen mike baan qaadanaya buu yidhi gabaygaa iminka uu tirinayo solomado axmed faarax baba waxa dhurayo wallaahi oo bilaahi oo tallaahi hadduu ituso meesha uu ku jiro waa sax baan odhanaya laakiin waa 2021 waxa la samaysanayo wey ilaahay baa horta waxaa ka dhigay looma ooyaanku dhalay ee kuul carraha ah ee midgaanka wuxuu ku leeyahay habar jeclaa maanta addoonsi ku jira waar ma wiil habar jecla oo saleebaan awowgii yahay silaaya awowgii yahay maxamed kaahinka afka taagaya uu adeerkii yahay ayaa gumaysi ku jiri kara adiga oo candha carre kaa dhashay dalkana laga mustaafuriyey oryaa cabdiwaaxidkii majeerteenku inta ay kaa dhex qaateen xabsiyadooda ku soo waseen markii dambena somalilan la keenay inta madax furasho lacag lagu soo qaaday haddana lagu xukumay 3 milyan oo dollar in coldoon baa maanta argagaxiso khasab lagaga dhigay oryaa dumarkaaga feed lala dhaca oo wejiga lagaga bedelaa hooda garays waa ayo nicimo qorane waa ayo naagiyow naagu dhalay kii indhaha la caseeyey ee hebel fantastic waa ayo war jeelasha somalilan yaa loo samay yaa la mustaafuriyaa sow adiga ma adigaa addoonsi somalilan laga sheegay wuxuu ku leeyahy maayir baan waa ayo maayirku halkuu joogaa rag soo noqday somalilan 8 sano madaxweyne ka soo noqda ku dhakhlaynayay 20 sano kursiga labaad ee dalka ugu sarreeya guurtida kaca oo fadhiista yidhaa ayuu ku leeyahy maayir baan noqday sanaag baa war sanaag waa 5 degmo adeer 3 degmo wiil habar jeclaa maayirkaa adiguna mid baa ka tahay weliba midkaa la wada dego midgaan dhalay oo sida gabooyaha magaalaba xaafad ka dega baa tahay anigaa runta kuu sheega habar jeclo adeer ilaa buuhoodlay gaadhaa oo maayirra ay ka soo saartaan waryaa sool bay magaalooyinka ugu waaweyn maayirra ka soo saaraan ma ka soo saari kartaa adigu waa no way waryaa saaxil bari baa la dharray deegaan baa la haystaa adiguna sida gabooyahaad xaafada degantahay markaasaad ileedahay waxbaan noqday iyo kana noqday adeer haddaa faro iyo tamar iyo tayo leedahay somalilan baa mudane madaxweyne lagu odhan lahaa axmed siilaayo halkaa ma soo saartaa qalbigu waxuu kala jabay naagiyow naagu dhalay iminkaad habaari doontaa odaygu xanuunsanayay odaygu kanuu ahaa odaygu keer buu ahaa aad ku waalan doontaa waa ku ogahay waay bal hadda aan ku socdo sidii waxaan aan u wasi jiray ee aan u bahdiri jiray ee uu addoonka u ah horta waa arkaysa dhulbahantuu soo qaatay anigu hadda iminka haddaan soo qaatay uu ku bilaabay anigu odhan maayo ma dhulbahantaa tahay odhan maayo laakiin iminka haddaan anigu garhka yagolka ka sheekeeyo rabaso iyo arabku wuxuu sameeyey aan ka sheekeeyo dhurwaale luqma dheere makhrib duway dayaxweer daboolane bah iidoor geelashii la kala haddaan wuxuu odhanayaa ma daarood baa tahay ma ogaadeen baa tahay ma dhulbahantaa tahay ma warsahabarawal baa tahay uu ooyaya waa arkaysaa isaguna markuu soo xataa reeraha kale markuu la doodayo habarawal ogaadeen buu kula doodaa arab markuu la doodayo ogaadeen buu kula doodaa wallaahi oo bilaahi oo talla inuu boog yahay horta intaasa caddayn idinku filan igada ha iisoo qaad igada war waay war guba silsiladii guba awowgaagiin intaana kuu gelin bal meesha la idhaahdo burco iyo dhoqoshi labadaba anigaa maanta jooga sidaan kuugu diri jiray iyo gabayadii kibirka lahaa ee aan ka tiriyey bal horta silsiladii guba waxaad ka ahayd baan sheegaya wuxuu yidhi waa yowle daaroodkaanu colownay
dood yar baan u tiraabay habar jeclada dacalkayga joogta degmadoodu ha waartay nabaday dihanayaan dood yar baan u tiraabay duudda habar yoonis dood yar baan u tiraabay daaroodkaanu colownay duudda habar yoonis dood yar baan u tiraabay haddii geeshka la duugo dugaagu gubadood iyo dulcad reerka la geeyo daandheer baa hadhi doonta adeer godob baa hadhi doonta daaroodu haddaa baktiga yaga wastaan buu kule yuu ooyaa mataqaanaa waa aniga wey wuxuu yidhi habar jeclada dacalkayga joogta degmadeedu ha waartee nabadda ay dehanaysa dood yar baan u tiraabay daarood baanu collownay ka darmeebaa ka shisheeye kan kale ku dulmeersan ragga daaqa ka jooga docmo kaa la gudboon daawo buu noo wada qaatay adeer dub buu noo wada qaatay dadna waa noogu xigtaan habar jecloy nacallaa hooyadaa ku yaal dildilaha nagu yaal baad marba daawanaysaan oo dhoosha ka qoslaysaan nin walaalkii la dooxay derma caadle ku seexday wallee waa u doqoniibo dembina taa kuma joogno aqal daaha la gooyo labadiisa docoodba dabayl baa geli doonta dembina taa kama joogo adeer geeliina dayrta iyo daa inay dhalayaane doobi xoorle kamaano sidiina u dingiiga raggaa daawada qaatay bal inuu idin daayo dibna inaad u dhantaan dambarkeeda aan dhowrno habar jeclooy adeerow waa lana dilay oo lana wasay ee waa maxay nabadan iyo qosolkani idinkaba hadhow baa laydiin iman doonaa ma habar jeclaa daarood u iman karaa mise waxaan u iman karaa dhulbahante iyo reerahan yaryar halkan jooga adeer way yimaadeen maxaa ka raacay isagaa soo noqday wuxuu yidhi milatari cadhooda laf buu malow ka siiyaa maroodiguba soo jeesigaan maaraha sidii oday maluugaha bartay moorad iyo faalka bal aan mariyo maansada anay igu majeertaan maskan iyo cagaar habar jeclo mooye u tumaysa oo midhaha doogiya ka badan maadha iyo ciidda wuxuu kuleeyahy maraqa lagu gubtiya bay noqdeen mur iyo waabe muxuu kusoo gebagabay in badan baa nugaal muranta taagnayd ay qoloba qolo maaganayd inay muqunshaanay allaylehe habar jeclaa mulkiday maaxdii caynaba horta labadeenu kaasaynu isku nay adiga awowga kii ma garanaysaa gambada xidhay ayaayna kala caddaynay meel kaleba kula aadi maayo anigu awoyaashaadii naagaha ahaa ee jilbaha dhigan jiray ayuunbaa kaala sheegaysanaya wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inaanan meel kaleba kula tegin naagyow naagu dhalay ee la dili jiray ee la bahdili jiray ee addoonka ahaa ee wixii uu dunye yar haystay iyo xoolo iyo rag u haystayba ay ka baxeen reere la simanna ay qaateen waay waxaan hadda u galayaa bal dhoqoshaydan uu caawa dhan ku celcelinayo ee uu leeyahay waa wariyaa deganiyo maanta deegaankii la isku dilay ingiriis baa wuxuu ku leeyahay ingiriis baa wuxuu sameeyey waar ingiriisku nimanka uu bariyey ee waxaan daayi uu yidhi ee nabad ma qaadanaysaan habar jecloy waxaanu ku nidhi nabad waanu qaadanaynaa waa inay gunnimo qaataan adeerkood cabdiraxmaan ciraa caddaynaya oryaa waa ninka ku yidhi jilbaha dhulka ha dhigaan ha isqaawiya de ila wase anugu ma garan kara faarax susliyi wixii la socday kaba xaarle waa inay afka ku qaataan gunnimo adeer waxay ka qabaan way sameeyeen gunnimadii bay qaateen waryaa ninka kaba xaarle afka u geliyay ee gurguurta jilbaha ku socda yidhi qaawiyey sow aniga maa sow ninka nabadda kuu waday ingiriis iyo gumaysta maa sow gabayada kuma cadda naagyow naagu dhalay war adeerow dhoqos oo keliya lama kala qaadin jaamac qabar baa la qaaday oo adiga awowgayo muse ismaaciila anigaa maanta jaamac qabar degan waar nin habar jeclii deegaan uu ku magacaabay yahay reerkaagu ma degan yahay waa maya ma degana mana leh awood uu ku dego waayo jaamac qabar ma kaa qaaday waar maxamed ugaas ma kaa qaaday bohol ma kaa qaaday naagyow naagu dhalay burcana muusin iyobay ahayd malabkii doocan anigu ma kaaga dhigay fardahaagii xamar dhoore iyo kuwii ma garanaysa abaanduulayaashaadu wateen xeryaha ma ku xiray dumar ma igala hor timid oo heshiis dumar baan ku qaadanayaa ma tiri waa tiri waxaasoo dhan waay adeer 500 oo nin baa dhegta u daray waxa soo gebi awowgii yowre waan dili doonaa isagana wuxuu yidhi dhaaxaa haliyey magac lahaa hooyday subaxaase waa kaa libaaxii hirqaday hawdka dhaqoshiyo hororkiyo waraabuhu
waa hilib ma waayaane hayaay ba'ayey hoogayey kumanaan habar yoonisaa haydhmay maantase waa yawlag wey aniga awowgay cabdilaahi hinig baa maqlay nacalaa hooyadaa ku yaalay inta qoorta laga jaray ayaa waxaa la yidhi mataqaanaa mashaa'iikhda gabaydaa mar bay midhan ilowdaa la'aye maxamed yowlaa xalay seega marikiya iyadoo markaa murugtayoo miina soconayso waa kii mushtaegnimo hadle mooyihii tumaye guutada maleegani markay dhoqoshe maxayse maalkiina goortaan harkii meel isugu keenay muslin iyo kufri uumiyaha marag miyaa joogay reer cawl sidii loo wadaray waa wakinayaane wiilkii u geeraari jiray iyo waaye yowlana waa aakhiro u daa adeer maskaamsa intaa wixii ka dambeeya abwaan yowlo kaaga horreeyey ma jiro ku kaaga dambeeyey ma jiro wuxuu ku dhintay colaadda iminka aad caawa dhan doonaysa inaad aniga igala sheekayso naagyow naagu dhalay salaadiintaadii baa jilbaha dhulka loo dhigay oo la qaawiyey kaba xaarle afka loo geli wuxuu yidhi wakti qaad wuxuu yidhi wiilkii u geeraari jiray iyo waaye yowlo ee wakti qaatee reer sugullihii doqonta waa laydhe wegergo'sankii degi jiriyo wanankii mooyaane waa wiiqan yihiin habar yoonistii damaca liidnaydee dooxada agteediyo haddii da'dku ku coloobay haddii laydin dilo waryaa sawdinkaan diiri jirinma haddaan iminka anigu ku qabto oo baridaa xun kaa dhirbaaxo wallaahi diiris baa jeedaaye waa macaana igu wad baa odhanaysaa boqoradaay xersiye aaminaay inanta afka balka ilaah baa idinku dhaariyey wuxuu ku soo qortay xirsi amaan yaa dila mataqaana waar horta reerkani mid baan caawa idiin sheegaya reerka gabooye ama ma dhibaan la idhaa mayg way qaadan karaan yay u qaadan karaan reerkanay u qaadan karaan kuul carre iyo midgaan carre iyo shiish wanaag carre iyo dandaan carre iyo cabdimidgaan iyo wixii la odhan jiray maxay ahaayeen carabala iyo qurun iyo qashaab horta mayg waa ugu qaadan karaan sida waxa kaloo mayg ugu qaadan karaan xirsi ammaan tumaal baa dilay inta uu uuska ka jeexay oo uu ka soo riday caloosha ayuu geed ka soo laalaaday waryaa gacaytay gundhiga kabaha lagu talo siduu ugu waday ee ugu mudmuday ayuu nafta kaga saaray xabad iyo middi waa lagala khashaa horta ma dhibaanku maygaa way qaadan karaan waanu u furay ogaada taas waay waxaanaan ku soconaya waryaa maxaa libintaan lahaa dabacayuun siiyey maxaa kelmadda dabacayuun lagugu bixiyey naagyow naagu dhalay ee futa macaanta futa macaan baa lagu yaqaanaa futaa xun buu ka war futa way xuntaa xaar baa ka yimaad laakiin adigu futa macaan baa ta oo kiriim baa marsataa futada raggaana u marsataa hadda adigu waa futa macaanta waa sax waan oga aniguna waa futa xuma adigu waxa ka futadaada kiriim iyo ma garanaysaa subag baa marsataa iyo saliid nacallaa hooyadaa ku yaala intaasaynu isdheerna makhnuud yahow makhnuud ku dhalay waar halkee lagu arkay reerka fanaankiisii la dilay abwaankiisii la dilay waryaa siyaasigiisii la dilay wuxuu eeg sargaal buu yeeshay waa caynaashe meeshii la dhigay haadku malafle soomaaliya 30 sannaha la joogo kaasuu ku yeeshay kiina waa laga dilay habeen dhoweytay waa nimanka mareexaan iyagoo hoos joogo aan arkay wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi sibaan ka noqday mareexaankii anigu aan futadiisa xun ka xoriyey ayuu haddana futadii la galay kalaa hoos addoonku dhal oo uu dhiganaya waryaa wuxuu yeeshay suldaan buu yeeshay dee garhka yagolkaa ogtihiin dhurwaana salaadiintii lagaga dilay baa ogtihiin waxa ogtihiin faarax suusle iyo aabbihiiba halkay mareen waryaa wuxuu yeeshay caaqil buu yeeshay waa xirsi ammaan tumaal baa ka dilay laba fanaan buu yeeshay waa gacayte iyo maxamed mooge waa ogtihiin halkay mareen war waxaan intaa wixii ka dambe waaba loo galmooday de magalmaa u dhiban maxaa u dhiban naagan naagu dhalay waay aan ku sii soco wuxuu yidhi haddii laydin dilo sawdinkaan diiri jirin maaha haddii laydin diro waryaa sawdinkaan diidi jirin oo ku diraya nacallaa hooyadaa ku yaala waa inaad club house aad tiraahda habar jeclo radiallahu canhu haddaad diido waa ku dilaya dhengadaana waa kugu wadaya dawlisyada galoolka ah sawdinkii diiran jiray maaha adeer doobiga riyaha sawdinkii diiqan jiray madawaa cabteen sawdinkii dabacsanaa maaha waryaa adeerow ninka keliya ee candhada waryaa afka la galabaad waar ninka keliya ee sabeen iyo ida u qalay baa tahay marti u soo hoyad abwaankaagii cilmileeg baa ka gebiya adigaa geel baan dhaqdaa odhan kara adigoo iminka ida futadooda ursanaya 2021 baa halkaa profileka soo saaran karaa
iyo aniga oo 200 oo geela waryaa sidaa u hor joogo baaqabkiina ma samayn kartaa ma samayn karta caydh ay dhashay baa tahay oo foqora ayaxaad dabataa iyo dirxiga iyo kabajaaga waryaa waxaad tahay ninka qamadi 200 oo wiil isaga dilay baa tahay hadal baa kuu banan nacallaa hooyadaa ku yaala midgaan yahow midgaan ku dhalay kelmadda midgaan anigaa kuu adeegsan kara warka badaha laga keenaye beeshu ii warisay ee boonta habar yoonis iyo bogox ka soo cawl baa midgaan jeer soo gabriyey war gubaa midgaan kaga xusanta geeli makhrib dumaa midgaan kaga xusanta kelmadaasaa reer kale u adeegsan kartaa kuulcaraa 2009 aqramaynaysa oo midgaa reerka keliya ee madhibaan maxkamad la furay baa nacallaa hooyadaa ku yaala midgaan yahow midgaan ku dha waxaan iyo wallaahi iyo billah waa ku dambaabaya caab waay war markii uu soo tiriyey gabayga guutada mareegani markay dhoqoshay maaxays isla awoogay baa haddana soo jawaabay waxaan sidii loo galay baktigooda markuu arkay wuxuu yidhi warka xalay toolo guuraynaya ee galowgu noo keenay ee ay gaadhiyadu noo sideen galabta soo hoyday goortaan guddoonkii hubsaday gaalibkaan tumaya gabladiiyo ciyaartan isrogay garanba maysaane godobtiisa reerkii yaraa goosan kari waaye reer maxamed goobtuu tegey bay gool ku dhaliyeen nacallaa hooyadaa ku yaala waa maxamed abukar wey naagyow naagu dhalay dhalfay sidaa kula dhex qaaday bukuley guul bay ka keeneen halkay gacanta saareenee magaliilyadii bay rideen gocosha waa ceeb wiil muuse abukora usoo tirinayo inadeerkii waa dhoqoshi anigaa maanta degan deegaankana lagu wada hadlayo ka degan waa ayo yuu magacu hadda ugu qoray se wiilkaa iga hooseeya dhoqoshi isaguma qoran waxaa kale lagu wada hadlaya maxay tahay niyo war niyo lafti qaado anigu taladaasaan ku siinaya reer kama soo jeedid bakti baa ka soo jeedaa waay gorgorkiyo waraabihii miya guduri daaqsiye nimankii isgabalaaxin jiray gawda laga saariyey guutooyin loo soo culay oo geyr qaba helaye gadhligaanka iyabaa la tegey go'ska la iibsaday waxna gacanta keebka ugu dhigay geesi labi yahe gelin baa la weeraray hadday guro fogaayeen gaal bow baxay maalin bay gadi lahaayeen waa wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waxaa ka dhici lahayd caynaasha dalab baan lahaa degala naafiya dubbihii baa igaga dhacay yaryarkii kaasaa ka dhici lahayd haddaanan ingiriis meeshaa iman oo uusan odhan faarax suuslow nimankan kaba xaarla afka ugu qaado hadduusan odhan dubbihii igaga dhacay baa ka dhici lahayd meesha waxaan kaaga daba iman lahaa meelaha aad gashay baan kaaga daba iman lahaa markaasaan sidaa dhalfa ku qaadi lahaa naagyow naagu dhalay ee ilaahay baadiray wuxuu yidhi gaalba u baxaye maalin bay gadi lahaayeene laga guur guryihii habar yoonis iyo gumicii toodheere laga guur gabraale iyo hirkii gaananaan jiraye laga guur gaawantii casayd iyo garaxyadeediiye laga guur ganuunadii burcee ge'la loo qaday adeer dhulkiiba waa ka guurtay dhulkaba waa ka guurtay adiga oo ma garanaysaa sidii inantii cadradda ahayd ee caadada lagu baajiyey ayaad guuro ugu gashay reerihii ku dhalfayn jiray ee sida doona kaa yeeli jiray ee dhurwaale baktigaaga dhigay naagyow naagu dhalay ee dhurwaale aniga aadi lahayd dhiigii cabbadii habar jeclaa wuxuu yidhi haddaan dhiman xigaalkay waan geli dhul buteeye dhiigii cabbadii wuxuu yidhi dhirta maydhisaar meesha iyo dhinaca buu hoodle dharcastiilaan mulaaxo iyo raggaan dhowrayaa iman kol haddii dhawaaqa iyo dilka iyo dhagartu weynaato oo ficilku dhagahooda galo waa ka dhididaan kama dhowrsadaan abid haddii uu dagaal dhaco waryaa dhiigii cabbadii habar jeclaa dhan adiga afkaagigala bal waxa kale ku wada hadlayno dabacayuun yahow dabacayuunku dhalay ee futa macaanta ah ee gusxajis garhka ku xaji waryaa ha ka baxa biyaha reer isaaq barax ku sheega in yaroo baaqiyo binu haashim gun yahay garooc yahay gabadh yahay ma tihid gaban isaaq ninkala lahaabaad garhka ku xaji warna sabadaa lagaa saaray oo waa lagu dilay oo raggaagiibaa la midhaystay oo weligaa nin taliya kaama soo bixin oo midgaan iyo kuul carraa qaramaysa bal waxaan aniga oo adeer kibray oo kan kondhomka ana wasi jiray deegaanadiisii qaadi jiray adigoo futa xajisna deegaanadaadii hadda sidaa dhoqoshay jaamac qabar baan kusoo qoranaya aniguna ku soo qorta sidee ii soo hor fadhiisan kartaa waryaa wallaahi oo bilaahi oo tallaahi boqoraddaay haddaa habeen dambe isoo hor fadhiisato
buskan waryaa saa waan kugu cadaya oo kugu luqluqaya waay aan ku sii socdo wuxuu yidhi laga guur xeryihii goodiga ee guulka loo dhigayee laga guur bankii gudubsanaa godamadiisiye laga guur guryihii reer ammaan geedka ku lahaayo waa taa galbeed loo kiciyo goro igii xaadhnaaye nin colaasi waayahay kale waayahay halkaasaad dhigaysana garaadaha si toos war waxaan niyo waxaan baktigiisa halkaasaad weydo dhigaysaa waxaan nacala halkaasaad dhigaysaa عايدة جوجي اركو ده ساعد هيسا الذي kala maridu caayi اه wallahi يجي isaga may waan sugayaa 29 maan ka qaadanaya سوق شوي labada maya kun soddon iyo shaambada way siddeed ka baa caadi dhacday beri warniyo waxaan anigu waxba ka garan maayo niyo we maya muxuu la ooyayaa bal mute gal maxaanad maanaa ka mayka garan dee qaadanaya war mud iska gal waxba kama war kaagu garanaya jilbaha isla dhicin naag iyo naagu mute iska baad soo barbar gelaysaa hadla waa kolley waa dee dumar anaa baa jira hadalka isu dayn kari maya maysaan inaad waxaan adigu isagaa mute may iska gal qaadanayena boqor waad انا caraab انا ما انا hooyadeen انا xalay دقل ciladii سيمو قال انا راغو مود قال ليو maxaa loo حيس انا boqoramayaa ده كاس مود قال سا مركو كوب بلا ما كاس صار سيده تنا غادو انغا tii نسيبي yareed ونو hadday بنيا carartay oy tiri waan لا cararayaa حيل 10 زمان daqiiqa وكو iga بلا dhig ما ساعه ده كو بلا ما waaye تسمع ka aamu ka bax hadda waaye qaad hadda اوكي سيده طبعا سيده ka leexa waayahay niyo horta subxaan allah waa idinka arkaya ki yaraa 10 daqiiqa iga dhig anigu waan baxsanayaa rasaastii baa ka dhamaatay iga waliya diinta inaanu sii wadi karin maantoo dhan isku wixii buu ku celcelinayay aniguna weli taariikhdeediiba umaan gelin laa ilaaha ila allah maxamed rasuul igaho niyo horta hal maayar sheegaan ku idhi buu hoodlaan maayar ka ahay nacalaa aabbaha ku yaal war waayo reerka hargeysa burco iyo ceerigaabo hal mar maayar ka wada noqday adigu weligaa ayaa lahama ka noqotay waa maya deegaan la'aanta ku hayso weeye intaaba midna maanta maayar kama tihid waaya aan u soo laabto dagaal jufo jufo waxaan kuu gaadhsiiyey kuu maray aniga hal mar xitaa jufo maad soo qaadan aniga iga mid ah waa la wada maqlayay waan ku sugayey hal jufo kaama hayo laakiin adiga axmed faarax soolomadow huu waaya kuma fogaanayo waxaan u gudagelayaa awowgaa markii xaaskiisa laga dhacay ilaan adigu geel lagaa dhaca maad lahayne gumaysigaan kugu hayay abaalkii sheekh cismaan nuur kamaad hadlinba wallaahi inaanad ka hadal waxaan ku idhi war waa maxay abaalkan ay habarawal kuu sheeganayaan ina bac ku xaarow iskumaad gelin laba su'aaloo keliyaan ku weydiiyey adigu wax su'aalay maad weydiin aan kaaga jawaabo baxsadna waate waanan ku arkaa haddaba waan kuu boobsiinayaa waaya awowgaa markii xaaskiisa la dhacay ee lagu horguursaday waryaa ninka tafadhiig siilaanyo ayeydii ninka lagu horguursaday awowgaa buu ahaa ee lalahaa xubna jeedalay sow faarax uma xalaaloobin oo geela waa la kala xoogaa xubin rag weeyaane addoonsigaasa adiga reeraha kale kuu dheeraa maadaamaad buur saarnayd ood riya dhaqanaysay sawir baan soo saaranayaa anigoo konton geela la sawir ma taariikh ayaad kalaab hows ku samaysanaysaa 60 ay ku gabax tahay ina gaadis wada dhalay gardaqarra u weyn tahay awowgaa huruha 1981kii isagoo riya ammaanaya oo buur lagu caayayo iyo riyo soo saara sawirka miiga kaa celinaysaa taariikh ma kuu noqonaysaa waa maya waaya haddaba anigu adiga xaaskaaga ugu quruxda badan ayaan awowgaa intaan ka furo hortiisa ku guursan jiray guumaysi weeye baad baan kaa qaadi jiray sad boqortooyo addoon iyo addoon ku dhalay ilaan suldaan maad lahayne anigu waxaan lib kuu sheeganaya bale jufo jufo waxaan kuu gaadhsiiyey haddana waa kan awowgaa oo ka calaacalaya markii xaaskiisa lagu horguursaday muxuu yidhi waa salaan carabaye waa gabayga aydaan dhammayn karin wuxuu yidhi haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhantahay waa goorma waa marka xaaskaaga lagaa dhaco ilaan adigu wax kaloo lagaa dhaca maad lahayne oo riyaad dhaqanayso buur baad saarnayde qarad dirir oo xaaskii salaan carabaya ayaan hortiisa ku dhacay markaasuu yidhi haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantahay dhaqashiya mar bay kaa yihiin dheregu xaaraane weli dheregii waa kaa xaaraan dhedigoosha waa ceeb inaad dhamagsataa meele dhadhan ma laha aadmigu wuxuu kugu dhaliilaaye nin dhirbaaxa quudhee dugsaday dhaqashadeed maaliye dhashaaday sugtaa xajadaad dhowrataa abide waata maanta ku sugaysa adiga waana guumaysigii aan kugu hayay
haddaba muxuu ku sii daray ilaan halkaa ma dhaafisaan gabayga wuxuu yidhi ma dhurlumin qaabiil markuu dhacayay haabiile dhiibaaji dumar buu ka kacay dhiriftinkoodii waa maxay dumarkan ay qaabiil iyo haabiil isku dileen waa lagu dagaalamaa waxa xiniyo go'ay xilo ninkii laga xaraystaaye awowgaa arooskii qarad dirir xaaskiisii markii hortiisa lagu guursanayey ayuu waxaa lahaa dhiibaaji dumar buu ka kacay dhiriftinkoodiiyo anunbaa bal hadda eeg dhedigoodka aadmiga horey uga dhawaajeen dumarku horey waa wax lagu dagaalama laakiin awowgaa muu dagaalamin waay wuu baqayey wuxuu ka baqayey in burco laga saaro waay anunbaa dhaxantu xalay iigu timi dhimirsigii ciile waayuu u leeyahay anigunbaa ciilkan igubaya anunbaa dhaxantu xalay iigu timi dhimirsigii ciile maxaad intaa u soo qaadan weydaan ilaan awowgaa isagii baa iska hadlaye anunbaa dhaxantu xalay iigu timi dhimirsigii ciile sidaad u fasiraysaa intaa mise muu odhan baad leedahay adaan kaa sugaya waay dhegxumada aniyabaa mase ah dheecdan reer gude ah ninkii ka dhacay cawad khoorshe jufadiisa reer gude ahayd walee ama dhalfada laygu xidhay dhoobo qolof saaray walee ama dhulkaba waan ka tegi dhaaban magaciye awowgaa salaan carabay guumaysigii markuu u dulqaadan kari waayey waa maxay dhalfahan ku jiruu sheegayaa walee ama dhalfada laygu xidhay dhoobo qolof waa marka xaaskiisii lagu horguursaday buu wuxuu yidhi geeridaa nolosha ii dhaanto dhereg waa iga xaaraan waa guumaysigii aan kugu hayey markuu u dulqaadan kari waayey ayuu yeman tegey waa kan leh walee ama dhulkaba waan ka tegi dhaaban magaciye kaasi waa salaan carabay waay midda kale addoonsiga kalean kugu hay ayaan kuu gelaya horta reer faqri dhalay waxaa tahay reerka ida isku laayay addoonyow addoonku dhalay waa adeerka abwaan sahal maxamed cismaan youtube-ku ku jira wuxuu leeyahy 5 ceebood ayaa inaga reeraha kale ay diideen ayaynu inagu ogolaanay maxaa ka mida idaynu isku laynay maxaa ku xiga magteennu way dhinayd oo 50 halaad ninka waxaan ahay ku yidhi hadda haddaan adiga ku dilo 50 halaad baa lagaa bixinaya bal adeerkaasuu uga calaacalayo ciilkii aan ku bada eeg muxuu kalu ka cabaadaya uu ka calaacalaya waa maalkii ina ammaan uu naga guri jiray iyo sad boqortooyo ninka cashuur kaa qaadi jiray anigu ahaa hadda bal dhegayso muxuu yidhi 5 midhoo mamnuucoo tolkeen meel isaga yaalay muslinka iyo gaal laguma arag maqalna loo waay wax ma aha taariikhda hore loogu arkay idii miro shambood ee tolkeen moor isugu laayay tolkaa iday isu laayeen magtii nii dhinayd iyo midaan qarinayoo dhaafay addoonyow addoonku dhalay sidaad aniga ii soo hor fadhiisataa anigoo ku idhi haweenka ayaad la magtahay ma addoonsi kalaa kuu dhiman maxaa magtaada dhimay nacalad baa kugu taal magtee nii dhinayd iyo midaan qarinayoo dhaafay waa awowga nin kale waa abwaan sahal maxamed cismaan waa muuse abukar youtube-ku ku jira isagoo leh magtee nii dhinayd iyo midaan qarinayoo dhaafay ninka 50 halaad magtaada ka dhigayna waa aniga ee midgahaba roomba haweenkaad la meeqaamta waay wuxuu yidhi maalkuu ina ammaan inaga gurayey iyo sadadaan miisaynay waayo ninkan cashuurta kaa qaadayey waayo ninkan ku guumaysanayey waayo ninkan sad boqortooyo kaa qaadayey waayo ninkan magtaadii dhimay war lib sidaa ma u sheegan kartaa waa awowga oo anigii iga cabanaya oo leh maalkuu ina ammaan inaga gurayey iyo sadadaan miisaynay mahadhooyinkaas iyo dar kaloo murala weeyaan maanta inaad guumaysi ku jirto waxaa caddayn kuugu filan ninka habarawal haddaad istiraahdo iyo ninka garxajis dhex gal wuxuu ku odhanayaa waa laba maroodiye hadday maayadu isjiidho midunbaad madiidi u ahaan labada meelood adigu weligaa iyo allaha addoon baad ahayd waa lagu guumaysanayey taariikhdii hore anaa ku guumaysanayey waxaan ku idhi sheekh cismaan nuur ayaa iga kaa xoreeyey anigoo kule saalada afka ku gur
kamaad jawaabin sheekh cismaan nuur abaalka ay habar awal kuu sheeganayso bacda aad ku xaaraysay yaa kuu keenayey ama carar ama adeer weliga ayaa allaha 10 daqiiqa iiga dhig waad iga fakanaysaa sawjadayda waay waan ugu sii soconaya habar jecloy dawarsiga maalintii iyo ciyaarta habeenkii kala daaya ninkii lalahaa baa tahay niyow waa reerka keliya loogu mahmaaho faqri waxaad ka qabto idaad isku layseen oo magtaadu 50 halaad bay ahayd naag iyo naagu dhalay adigoo meeqaamka haween kale oo magtaadu 50 tahay oo awoogaa calaacalayay oo uu leeyahay magtaydii dhinnayd iyo midaan qarinayo dhaafay taasina waa gar adag kuumaba gelayo waqti uma hayo ilaahay bay tiisatay haddaba adeerkaa markuu dawarsanayo cimraan buu sheegan jiray maalintii habeenkiina wuxuu sheegan jiray maxay reer cawl markuu ummadda dhex gelayo muxuu yidhi casarkii markay tahay cuud eebba ima siinin nin cimraana baan ahay oo haddee waxa adigoo noocaasa oo ceelka sii bakti kasoo dawarsi tegi jiray maxaa sii bakti lagugu bixiyey subxaan allah inaad way kaa dhacday laa xawla illaa inaan hore dhama dhicin dee maxaa may khaldan dhicin inaad roog sidee 9 bay ku dhacaysay okay inaad soco inaad ardo waaye waswaska naga daa mujaahido anaguba intaadaad inankan yarinka qabanaysaa inaan taa yar waswaska naga daanayo sanayo waaye waad igu daraysaa 40 baad iga Afartan. dhigaysaa inaad meel laba jeer baad minidada ka baddo wallahi waan ilaawa soco haddee maxaa inaan waa markii imisaad ninkaa kaleba kama dhex gelayside maxaa aniga waa bal 40 baad iga dhigaysaa iga lexo casarkii markay tahay buu yidhi awoogaa cuud eebba ima siinine nin cimraana baan ahay markay tahay cawayskii loo baxa ciyaartana dadku kay ka caageen iyo nin reer cawla baan ahay markaad dawarsanayso cimraan baad sheegan jirtay markaad dadka dhex gelaysana nin reer cawla baad sheegan jirtay nacalaabaha ku yaal waay waxaan ugaga baxayaa inankaa yar awowgii wuxuu yidhi geel baan leeyahay waa wax lagu qoslo war awowgaa miyaanu ahayn kii lahaa dadku geel ma wada lahaa garmadoobe igu bixiyo gashina iima soo hooyan sidii guluf cadaawo ah haddaan reerkayaga galo intaan ooda garab dhigo gunta xerada ku hubsado 60 ay ku gabax tahay ina gaadis wada dhalay waa markuu riyaha ammaanayo ina gaadis wada dhalay kartaqarra u weyn tahay iyana gowsaheedii jilibka weli gamuuraan haddaan gurigiina soo tago adiga iyo gaal xidheennadu miyaanad geedi kaciyaar iyo gucle iigu imanayn waa awowgaa oo riyihii u abtirinaya sawir baan soo saaranayaa anigoo geel wata nacaalad baa kugu taal guurdoon adduun beelay bay tiri iyo gobdanowday inaad tahay ayaan gacalow ku moodaye imikaan garwaaqsaday inaad way kaa dhacday 40 kaa dhacday aye inaad dhigaysa daba inaad horta halkaas kaaga dhacay xisaameerow inaad waxaan yani halka daqal ilaaw inaad wallahi xumaan ma aha laakiin arwaan daalnay waa seexanaynaa marka inaad hadnoo qabanina marka waa kaaniyo war kuma haysana soconaya inaad arwaan daalo wallahi ma garatay waxaan ma qaban xaggan inta kala hoos joogay mana qabto inaad bada ka maanta halkaasaan dimuqraataysi nimankaa tolkaada yani u qabo marka waa kaaniyo taa marka laga soo gudbo waxaynu gelaynaa maygii labaad ee u dambeeyey ee ra'iis wuxuu ku xambaaranayaa 41 buu soo dhigayaa waa kaaniyo sida waxaan ka xambaaranayaa 42 hayin ardada agaadhiso waay muud gala niyo horta labadii mayg ee horeba waa ugu dartay muud baad soo 42 ka ilaa imika u gaadho uga bax war niyo hooyadii wasaha condom-ka ayaa naga aamusiyaniyo waxaan muxuu ahaa فلسطين وارني ومودقل مودقل أدر فلسطين وحنا قويس كتيرات هاي مودقل نيو رجي كقويسنا يا صورة فلسطين أنا قرادك بعد وانا قدر يا والله وانا قدر يا هذا قدر هذا رجوع مدرس سوى فلان والله قدر يا وني كان ما يكبو هيستا هذا أركم مسؤولية قال أنا جو بهدي هالكاي يقول عيان نيك وكأمصية لما عيتم شرعي أنا جو أنت نيك هذا البحوث كقطورة سمرك وقبحنيه 42 ka qaadaya وقبحنيه 42 كقاضو نيكاس ما يجيس حربو يهي نادر 43 ما كقاضي وانكم ودعاده مود باد جلسة هذا المهم ده يشريك يا
niyo eeg labada kondhomyadan isa anigu imika saaran inaad maxay haayeen adeeroy muud gal hadalkayda maxaa kaa qaarkood khaldan anagan adagow muud gal naagiyow naagu dhalay waa arkaa baxsad baa tahay hadda ma adigoo inaad xakamaha waxaa ka diida sheekeyn diida qaarkood markaa adiga may qaatay inaadan iga diida aamusina damayga dee ka maxaa dee aamusina khaldan nin waa khalad inaad no 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 aniga no markaa inaad mawduuca aniga ka kusoo hadlaya qaaday mujaahidow ninkaha mar u qura kumaan jawaabinayo caayine maxaa inaad ninkaas ma ninkaasaa adeer mayg la ninkaasi haysta miyigiisa leen xor anaa buu mayg la yahay hayste ciduu caaya isagay u taallaa haya markaa inaad waqtigiisa haya adeer ka adiga qaaday imika miyaan 3 adiga 4 sita ka adiga baxaysa miyaan mar kula may ganaa hadlay 3 4 sita 3 4 ka qaadanayo sita ninka war rayso war 4 baan ka qaadanaya aad iyo aad muud galaniyo daqiiqadaas markay dhacdo ana muud baan ka galaya 4 baan ka qaadanaya kondhomkii waa soo boodaya muud baan ka haddaba anaa intaas sii hadlaya niyo dhegeysta haddaba isku dhala niyo eeg aarko muudka galniyo wax kale baa idhahda ninka aarkood dee markaad mas-uuliyad hayso aad dhexdhexaad tahay aniguba anigoo dhinaca ka socda haddana dhinaca habar jeclo haddana bahalkii dhexdhexaadnimadan ugu dadaalayaa ma garatay war anigu oo markuu mayga sida caynina sharafta ninka lagu waa socdo waa sidaa caayaya adigu ma dee yaqaano ninkii war may haddaba maqlaysaa marka haddii caydo nin hadduu kugu yimaado dee inaad adaa mas-uuliyadda qaada iska dhaaf kor uga bax haddii arniyo adaa muud kaa gala caytanto maad raxmaanaysaa muud gala u dhacay soco waaye way muud gala niman yahow horta wuxuu ku leeyahy taariikh baan leey war ma adigaa taariikh ab iyo isirba uma leh ma taariikh baa ka warramaysa laba war de waxaan khaniiska ayaa muud gali dhaha kondhomka arin muud gal niyow annaga hanagula dhuuqan waay niyow horta waa futa xajis waa futa macaan dhashay oo garac xajisa oo garhka ku xaji la yidhi wey addoonsi buu ka warramaya iyo dumar baa la kala qaadi jiray war aniga awowgay gamoonta waa aniga brofileka soo dhigay gabayga wadaad yahow isaga ayeydii baa niman ogaadeeni ka qaadeen maxaa la odhan jiray magaceedi waxaa la odhan jiray asma heblo cali nuur halkaasay ku qoratay akhrista nimayo waay wuxuu yidhi gabadha wuxuu yidhi seedgaal markii dhig jalaq loo sii waay ogaada kusoo noqday waxaa la odhan jiray arrin magaci halka profileka ka akhrisa refresh siiya nacalad baa hooyadeed ku taal gamuunta wuxuu uga soo guuray gabaygaana u mariyey isaga ayeydii oo awowgii qabo ayaa la qaaday dabadeed meel uu gamuunta degan yahay oo carro ogaadeynaba agteeda lagu furay islaantii oo la sito oo nin habaryoonisa meher ugu xidhnaa nin kalena ka daba mehersaday oka brofilekeyga hoyga sugaanta iyo doolabo gabayga wadaad yahow wuxa uu ku yimi waa ka heli kartaa waay horta naag baa la kala qaaday buu ku leeyahy warniyow adiga ayeydaa baa la kala qaadi jiray qarar dirirda laysku hayaaba waa adiga ayeyda naagyow naagu dhalay waa naag habaryoonisa wey ma adiga ka sheekayn kara gabaygii qadhaadhaa ee suldaankaagii khaniiska ahaa loo tiriyey ee ma garanaysaaye ee gabaygu waa mine waa caan dhalay isagu gabaygan ma bilaabi karo sababta uusan u bilaabi karin waa iska garan kartiin gabayga waxaa loo tiriyaa reeraha isaaq oo dhan horta salaan carabi ninkii la odhan jiray wuxuu qabay cawo dhooble iyo dakeeya war ma naag saddexaad oo labadaas soo raacduu qabay yaa waxaa uga warramaysaa qarar dirirta ayeydaa ahayd sow naagtii cawad khuurshe ee ninka salaan carabi inadeerkii uu ku qabsaday awowgaasoma isaaq oo dhan buu khayro u dirsaday xataa reero waxa ku jira habar jecla ah oo reer daahira waryaa gabayga sow kuma laha oo sow kuma jirto xasan daahirkii lagu dhugtumay dhabanahays reebiya ka dhegsiiya cumar daahirkii dhaasiyaa dilay ku dhudhumiya reer xaamudkii dhiigga fuuqs waa ayo sow niman habar jeclaa sow nimanka uu isku dilaya ma reerkaaga jifa gabayga ma u mariyaa dheeldheeltan baa lagu galay dabadiidii reer cawle waxbana kagama dhiidhiyin reer xirsigan dheelelo u kacay dhoolaha bedday kaga rideen dhagixii beereeda waa tii waraabuhu dharqaday dhinacyadiisii cabdi qodaxna waa lagu dhugtumay suu dhalool yahay dhaayaha wejiga saanadii dhab uga qiiqaysay hadba waxaan la dheeldheelminayaa dhicitankiisii horta salaan reer walba sidii loo dilay baa ka ooyayaa reer walba waa reerihii isaga ka heliyey ee yidhi waa gar daran tahay niyow gartuna way kugu furan tahay nin baa naagtiisii kibir ugu haysataa reerihii yidhi oo dhan buu gabayga marinaya waar gabayga ma ku jirtaa dhegsiin buu ka helay wuxuu yidhi dhegsiin buu ka helay ciidagale lama sadhaabayne dhoobada suldaankii la dhigay dhayma laba siina dhibtuu qaba hadday ugu dareen iyo weliba dhiidhi ma ku jirtaa gabayga sii oo no naagyow naagu dhalay suldaankaagii la wasay ee jilbaha dhulka loo dhigay ma ku jirtaa way ku jirtaa ma adigaa gabayga mina bedeli kara
ee reeraha oo dhan uu u tirinayu leeyahay hadba kala dilay baan ka ooyayaa intana imika leeyahay haddaad dhimato geeridu marbay nolosha dhaanta bal inta isku xigtaan kuu sheegaya dhegeyso wuxuu yidhi dhoobada suldaankii la dhigay dayma laba siina dhibtuu qaba hadday ugu dareen iyo weliba dhiidhiya waxa libaaxu dhacadiidiyaa gool udha isbidaye goortuu dhargaabu dugaag uga dhawaaqaa ragba libinta maantuu dharqado dhaata abidkiiyo isagoo dhantacay faarax nuur dhuda ma luqeeye haddaad dhimato geeridu marbay war ma isku xigaan faarax nuur baa kibray adiguna geeridaaniyow nolosha kuu dhaanta naagyow naagu dhalay way kuu dhaantaa geeridu nolosha waayo nin suldaankiisii la wasay jilbaha dhulka loo dhigay oo gabaygii lagu caddaynaya isku soo qaadanaya horta dee wuxuu ku noolaanaya anigu garan maayo oo makhnuuda waay nin horta gumaysi iyo addoonsi buu ka sheekeeyey addoonkan addoonku dhalay ee weligiiba anigu aan dili jiray sidaan doonana u laha war aniga adeerkay waa carab dheere addoonsi wuxuu ka qabo adiga awoogaa buu soo qabtay kii la odhan jiray nuur ammaan bal gabaygu u marinaya ilaahay baa idinku dhaariye eega wuxuu yidhi ninkii guun ciraystay iyo bidaba khayrka guri waaye waayana garowgii ku cunay jecelkan gudihiisa waayana garnaylkii ku sigay gobobkan hoostooda waa isaga awoogii oo addoonsi awoogiya ka weye wuxuu yidhi giddigiinba niman yahow bilo iskabi ahaantiiba ha la guro ulaha waa guddan wa'sa kala gaar gaadmiya ninkaan lagu tuhmay gacan fuda itoona ee gana tukubihiisa waa lagu gargaaraaye geed baas mid laga keenay iyo garac xun mooyaane ma gilgila duqaytida ninkii uur ka soo go'aya nacallaa hooyada ku yaaleed wuxuu ku soo gebagebagey dadkuna birimageyduu leeyahay iyo lama guhaadshaan waa awowga oo aniga awowgay ka ooyaya ma adigaa addoonsi ka sheekayn kara addoon yahow addoonku dhalay ee weligiiba aan lahaa waar awowgaa gabaxadiso kala soo maaha soocana ilaahow ku bixi sabanka duulaaya samaydin ma dhiidhido maalintay seenya ololaysa sacad yuunis iyo bihi darays waa labadiinaa kondhab wey sacad yuunis iyo bihi darays sayma ugu oodma sawliila waa taa wax badan war yaa xeryaha idinku oriyey addoonsi wuxuu ka qabo yaa xerada idin geliyey idin iibsanayay sow aniga maaha yaa labadiinaba deegaankiina qaad sow aniga maaha dabacayuun yahow dabacayuunku dhalay ee wagaashlaha ah ee garhka ku xaji baa la yidhi wuu gununusay adeer garaxaji baa tahay guntana faankaa ula simanta maayir baa ka warramaysa madaxweynaan kaala sheekaysanaynaa naag ibnu naag nin la yidhi madaxweyne iyo maayir baanahay maayir warniyo farahaagu madaxweyne ma kuu jari karaa waa no adeer nin taliyey ma kuu jari karaan waa no gabaygaa markuu soo tiriyey awowgiisi khaniiska ahaa ee la odhan jiray muxuu ahaa ina ammaan waxa haddana soo jiriyey cabdilaahi muuse ku kale oo la odhan jiray oo isna khaniis ah wuxuu yidhi markuu arkay gabaygaasuu dib uga jawaabay tog dheer baa calaacalay markuu tabay raggiisiiye inay burco tolla ayay lahayd taarku noo yimiye wuxuu yidhi nuur baa tumaatiyi jiroo tiirka hoos maray tolxumada waxa iigu wacan taagga gubadeeda ogobey turkiba waa aarsadaa 2 horta kaasaan anigu ah waan tol xumahay ninka aad adigu iska leedahay baan ee tolkaagii kuu uriyey kuuna qadhaadhiyey kuuna xumeeyey ma adigaa aniga isoo hor fadhiisan kara tolxumada waxa iigu wacan adeer taagga ninka aan kaga siiyey baan naagyow naagu dhalay tabantaabay 2 gacmood tamar ku yeeshaane tiska waxa laga qaadaa markay tiirisaa bidixee hadday midigtu kali taagan tahay taa harma goyseen addoonsi anigaa sidaan doono kaa yeelay oo ku addoonsaday ku bahdilay waryaa caawa dhan waxaad aniga igala sheekaysanaysaa islaan xunoo cambaro la odhan jiray oo anugu isma tegey ayaa ilaah waxay ku tiri cambaro waxay ku tiri war adeer jilba joogsu wiilku ku lahaa aniguna waa ku daba istaag ma waxaasad aniga iga sheekayn karta oo libin iga dhigi karta adeer sawir baan halkaa 2,000 oo geelaba soo saaran kara adigu doofaaradaadii baa soo saari karta geel lama dhaqatid adeer doofaar baa dhaqataa iyo idaa dhaqataa ninka doofaar isku dilay baad waar ninka qamadi isku dilay baad ka ayax isku dilay baad waryaa futaxakis carada waxa ugu wacani caydha weeye talaantiin ama adigaa dawarsi ka sheekayn kara caydh yahay caydhu dhashay
waryaa indha deeru ahaa wiilkii kaa baajiyey qamadiga ee beriiska kugu bedel soomaali ragga ugu taajirsan aniga iga dhashaan yaa kaa dhasha qaadwaraa kaa dhasha naagiyow naagu dhalay soomaali anigaa lacagteeda number 1 markaasaad aniga igala sheekaysan kartaa maal caydh yahay caydhu dhashay futaaxajiis cadhada waxa ugu wacani caydha wey 30 caama bay heli wuxuu yidhi 30 caamba baanay helin ceesh kol ay tahay waa kuwii ayaxa ku boobay carshiga ood weyne waxa caydhan lagu xamanaya ceeba saahidaya sifo kalena waa xal kaloo goostay seetadee nimankii qamadiga ku dilay curadadoodii ceebuhu arlada wada mareen gedi ahaan soomaaliya carfigii isaaq way dileen calankii taagnaa caydh yahay caydhu dhashay ee dawarsadaha ah ee fakhriga ah ee ayaxa waryaa cirka duulayaad sallaanna u dhigataa iyo shabag allah hooyadaad caydha ahayd miya foqoriyo foqorku dhan waay aan ugu sii socdo addoonsigii xadhkaha goostay iyo burcadii la kala qaaday ee la isku dilay waay wuxuu yidhi ninkii xaadda lahaa iyo xaakinkii baa muudgal